بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaasheena ama daawadayaasheena meel kastoo aad caalamka naga daawanaysaan waa barnaamij gaar oo aan uga hadlayno heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee DP World ee la gashay ama United Arab Emirates ee la gashay Somaliland iyo Ethiopia waxaan leenahay barnaamijkaasi tod aan arrimo aad u fara badan ka soo diyaarinay waadi salaamaya walaalkay Maxamed Xasan waxaan ku leeyahay bal soo dhawow dadka kale ee runtii nabada daawanaya meel kastoo aad caalamka joogtaan waa barnaamij gaar oo aan uga hadlayno arrimo aad u fara badan marka waxa hadartaan ila joogo dad badan laqadka ay soo gali doonaan haduu Ilaahay ka raali noqdo Professor Qaasin oo aan mar dhow ku soo dhaweyn doono haduu Ilaahay ka raali noqdo waa ku salaamaya Xaliima Cadey Maxamed Xasan iyo dhammaan dadka kale hawada naga wada daawana meel kastoo aad caalamka joogtaan marka waxa la socotaan in barnaamij gaar ah aan runtii ugu talagalnay uu yahay maanta oo aysan ahayn maalintii aan ama idaacada ama Facebooka ama aan media soo gali jirnay marka barnaamijkan haduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan ugu talagalnay arrimo aad u fara badan oo aan runtii diirada ku saarayna sidaan idin sheegaba arrimihii heshiiskii dad badan sidii u arkaan marka arrimahaas iyo arrimo kale aad u fara badan ayaan ka hadli doonaa marka bal waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay Professor Qaasin marka hore bal dad kale oo caalamka joogana waa ay soo gali doonaan bal soo dhawo Professor Qaasin بسم الله الرحمن الرحيم موسى كولو يا خيارتك على تان سلف لنا كل جن آدم يدين سلام يا آدم ما سنتين مركا وحاول بالوريس موسى يا إن شاء الله سؤاله كسبة يا Professor Qaasin waa loo yaqaanaa hu ayaa meesha aan runtii nooga muuqata laakiin waxa aad tahay qof walba ay ku taqaanaa raadiyo wan Soomaaliya Professor Qaasin bal adiga dadka marka hore isu sheeg inta aanan bal dadka aanan ku sharaxin marka hore adiga بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا هاي قاسم حرسي وحنا مركا قفك عن هاي كليه كشيء جاء وحكا قصية ورئيس عن هذا عن بيبة إنها تعال إدمه وحي تهاي إن أنا جاي شهادة أقص الرئيس تعلمت أيان وحن قسم يجي علومة بدأ وهذانا خاصة بدأ سوماليات وهذانا خاصة كسي إسقويس كبدأ عس إيو بدأ هندية أي هالكيس كجويان oo aan ka hadlayo xagga nabadgelyada iyo xagga bii'ada labadaas dhinacano xog saaraya ayaan PhD oo ah tii labaad aan ka qoray oo aan ku dhameeyay dalka Canada jaamacadda York marka waxaan ka hadalnay arrimihii DP World bal DP World iyo heshiisyadooda bal soo aragtaa bal marka hore DP World hadii horta marka taariikhdooda bal nooga sheekay iyaga oo taariikh ahaan marka aan uga sheekayo horta DP World sida aad la socotaan waxa weeye waa Dubai Port iyo adduunka waxa weeyaan waa sharikada miinaa caalamiga oo ay ka wadaan inay dhahaan ee Dubai marka waxay tahay sharikadan taariikh ahaan waxa lagu sameeyay ama Dubai dekedeeda waxay ka soo askuntay taariikh hore oo dhacday 1800kii oo ahayd boqor meeshaas joogay baa wuxuu rabay in laba wiil oo dhalay oo xajka geeyo marka labadii wiil oo xajka geenay iyo alaabtoodii ayuu halka iyada goobtaas oo ka raray labadii wiil baa wuxuu raray afar rati oo kiiba hal rati oo midna asaga qaado midna alaabtiisa qaado oo ugu raray meeshaas baa marka taariikhdaas lagu xusuusanayay sidaas loo dhisay horta dekada Dubai kadibna waxa Ingiriiska baa xiriir la yeeshay waxa la go'aamiyay DP World markaas asaaskeedu halkaas ka soo bilowday waayadii hore taariikhiyan marka wadamo badan bay gashay DP World inta wadan oo maartay dekedeeda ama ka kireysatay ama heshiis kula gashay contract waxay u badan yihiin wax ay ku khasaartay iyo wax ay dhibaato u keentay weligeed inta ay faa'iido u keentay aad bay u yar yihiin oo tusaale kuwa hadda ugu dambeeyay oo baryahan ay qashqashaadayso waxa kamid dekada ku taala magaalada Sabha ee Libya oo ninka la yiraahdo Khalifa Haftar oo Cornel hawlgab ay maalin walba diyaarado iyo hub siinayso si uu u duqeeyo dawladda loo wada dhan yahay Libya kalka ka dhisan si dawladda marka federal ahaan iyo oo kaleeta loo burburiyo ayay ninkaas Khalifa Haftar dhaho oo hogaamiye kooxeed ama hogaamiye dagaaleed qabqabla dagaal ay sidaas ugu isticmaalaan Yemen waa la socotaan qofna looga sheekayn maayo oo Yemen waa taas ay dhulka dhigtay oo burburisay maanta waxa ka jira ciidamada ugu xoog badan ee Yemen ka howlgala waa ciidamo laga leeyahay Imaaraadka laakiin calooshoodu shaqaystayaal waayo dadka Imaaraadka oo dhan
nus milyuun ma gaaraan, waa 400 kun oo wax dhiman. Marka waxay adeegsadaan dad calooshooda shaqaystayaal ah oo ay adduunka ka keenaan bay isku keenaan oo halkaa ka arursadaan. marka kaliya macnaha adduunka dhan tusaale waxaan booga soo qaadayaa inta ay DP World dhibaato u geynayso ama qashqashaadayso maba ahanba Soomaaliyadan tabarta yar iyo maxay tahay Libiyadan tabarta yar iyo Yementan tabarta yar Maraykan bay hunguriyeysatay oo hanweysatay. Maraykan baa hadda ku marar ugu dambeysay laga cayriyay dhibaato badan ay gaarsiisay wadamo dekada kamid ah Maraykanka, laakiin waxay saldhig weyn ku leedahay xoogeeduna uu yahay kana soo shidaal qaadataa dalka Ingiriiska. marka waa maasan tahay runtii waxaan ku weydiinayaa haddartaan dhibaatooyin aad u fara badan ayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo meel kastoo caalamka ay joogaan ay ka tirsanayaan. marka bal maxay tahay dhibkaasi tud hadda ay ka tirsanayaan? bal wallahi dadka waxay u eg tahay in ay dadku hadda baryahan ay dareemeen dhibaatada ay leedahay meeshan la yiraahdo DP World waxaan la yiraahdo ama se guud ahaanba dawladda Maraykanka. sideedaba horta DP World waxa weeyaan waa maxay tahay waa shirkad ay leeyihiin magaca imaaraadka iska leh ee wadata laakiin aan dawladda ahayn. marka sidaas darteed waxay ugu tala galeen imaaraadku marka ay khashkhashaad soo sameeyaan marka ay wax soo burburiyaan inaysan markiiba aan macnihi la dhihinin in markaas aan macnaha dawladda Maraykanka imaaraadka aan dacwo loo qabsanin. si aan dawladda Maraykanka imaaraadka haddii dacwadaas lagu soo oogo waxay ku tala gashay in ay tiraahdo annaga ma aha waxa wax sameeyay waa shirkad weeyaan. shirkadana annaga xorriyad baan dhiirigelinaa marka waa shirkad iskeed u madax bannaan. sidaas inay ku marmarsiiyoto ayay dawladda imaaraadku rabtaa. saas darteed bay u dhistay shirkadan noocan ah. annaga marka waxaa weeyaan anigu marar kale oo badan baan ka hadlay oo Muuse Kuulow si fiican aad iiga waraystay marka dhibaatooyinka ay imaaraadku nagu hayaan. marka taas markii aan ka hadlayay waxyaalo fara badan baan ka hadlay. waxaan kale oo ku qoray buuggayga PhD-da oo isla arrintan ku seenayay baan ku qoray waxyaalaha ay nagu sameeyaan Soomaaliya. waxyaalo waxaa ka mid ah markii aan ka hadlay in ay maxay tahay DP World kan intaan la gaarin. DP World waa marka waa shirkada yar baan idin sheego qayb ka ah laakiin shirkado kale oo fara badan oo isla imaaraadka ka mid ah ayaa waxay sameeyaan in khashkhashaada sameeya. khashkhashaadaha Soomaaliya ay ku sameyso waxa ugu horeysayba oo aad intiina badan ka dharagsan tihiin in markaysay ay macnaheedu dalka Soomaaliya uu burburay wax alla wixii Soomaalidu ay lahayd ay ugu yaraayeen korontadii dhulka hoosteeda tuubooyinka ku jiray korontadii aan lahayn wixii sanamiyihii laamse taalooyinkii wax kastaba statueska inta la burburiyay kulligood imaaraadka halkaa la geeyo oo dekada DP ah lagu gaday ama laga gaday. waxaad ogtihiin dhirtii Soomaaliya oo dhan in la xaalufiyay macal qurac iyo qansax aan la kala reebin geed camba aan laga xashoonin xataa kulligoodna ay imaaraadka iyo kuwa la mid ahoo ay si ay markay barbecue uga dhigtaan ama markay rabaan isdab foofan cayaar iskaga dhistaan kaliya dhuxushaas ka dhigtaan in looga dhigay oo dhulka Soomaaliya sidaa lagu xaalufiyay. waxaad ogtihiin intiina ama daraasadaysay ama maqashay ama la socotaba Soomaaliya in kalluunkeeda la bilaqaysto dawladii ugu horeeyay ee bilaaba ayay ka mid ahayd Yemen oo markaa kalluunka Soomaaliya bilaqaystay khayraadkii badda kale oo ku jiray oo kala nooc ah oo dhir lahaa oo kalluun lahaa oo qalabyo kala lahaa oo dheeman lahaa kulli ay xoqdeen oo halkaas la tageen. taasaa ku jirtay. waxaa kaloo jirtay in ay xaalufiyeen bariga Soomaaliya ugaadhi ay ka xaalufiyeen. in badan waa maqasheen wararka in lagu sheegayay in diyaaradaha helicopter ah ay u yimaadeen ay dhulka Soomaaliya ay ka dafayeen libaaxyo haramcad dhurwaa sagaaro kulli ay ka arursanayeen. marka xoolihii noolaa warkooda sidaas loo daldashay wildlife-ka ku ah oo ugaadhi sidaas loo daldashay. intaas oo dhan marka ka bacdi waxaa ka sii daran in mid ugu daran waxay ahayd mid mawduuc dhan aniga iyo Muuse aan ka wada hadalnay oo meelaha ku jirta aad arki kartaan oo anigu aan soo xaqiijiyay maadaama ay takhasuskayga tahay in ay imaaraadku roobkaas ilaahay noo soo dejinayay roobka caadiga noo soo taayay
ay isbaaro u dhigtaan oo ay roobka naga dafaan waa arrintaas waa ogahay waa arrin macnaheedu shactiro la ah dadka si kale u fahmayaan laakiin kolley inta baratay ama inta la socoto adduunka hadda ayaa garan karta roobka intay naga dhacaan in ay nagu soo sun bedelkii roobka noo soo daadiyaan oo ay dhacday oo aad og tihiin dhacdadii hadda ugu dambeysay 2016 markii imaaraadka oon weligiis roob ka di'i jirinna noqotay daad qaadayay oo baraf ka da'ay soomaaliyana ay abaarta qaxdiga ugu daran ay ahayd oo tii dhacday dee waad og tihiin marka intaasoo dhan waxaa sii dheer in imaaraadku siday ay hadda dekadahooda shirkadahooda iyo waxooda nagu soo galeen waa sidee tii ugu horreysay waxay ahayd qorshahan horta waa qorshe muddo lasoo dejinayay wax hadda cusub ma ahan qorshahan muddada lasoo dejinayay marka waxaa ka mid ahaa unkidii bayradka burcadbadeedka dadkii aasaasay ama dhiirigeliya ama informationka akhbaarta siinayay maraakiibtii waxoo dhan baa ay meeshaas ku jirtaa tuhumka weyn uu ku jiraa oo aad maarata meelo badan lagu qoray ayagoo wadamo kale xataa kala fadhiya ama badda dhexdeeda fadhiya meelo ah markii ay abuureen kadibna ciddii ugu horreysay oo ciidan counter piracy la dhaho la dagaalanka burcadbadeedka ciddii keentay imaaraadka ahaayeen ilaa haddana ciidankoodu waa dowladaha ugu ciidanka badan ee halkaas jooga marka badanadii oo dhan ilaa iyo kismaayo ayayba saas ku haysataaba hadda oo badda noo fadhidaa jidkay noo fadhidaa marka intaas marka ay taasi tahay waxaa sii dheer sidaas waa sida ay marka nagu soo gashay haatan maadaama ay taas nagu soo gashay waxaa hadda ay og tahay in haddii xataa gacan ay dhacdo laakiin haddana soomaaliya dowladda soomaaliya waxay kaashan kartaa ciidamada kale ee meesha jooga laftigooda ayada oo markiiba ka gudbin karta qoraallo ay ka codsanayso in ciidamada halkaa la jooga la kala sifeeyo oo classification system waxaa lagu sameeyo oo laga saaro kuwa imaaraadka maadaama ay leeyihiin dana kale oo gaar ah oo aan ahayn kuwii loogu talagalay ciidamada kasoo la dagaalanka burcadbadeedka marka haddii aan sii wado marka waxay tahay DB World waxaa hadda ka hor waxaa laga cayriyey wadamo fara badan oo maraykanka ay ka mid tahay weli hadda dacwad baa ku socota tan maraykanka oo ay qabsadeen 5 terminal waxa la container terminal containerada meelaha ay ka degaan qofka marine transportation security qofka yaqaana wuu garan karaa macnaha meesha la dhaho container terminalska oo containerada laga soo dejiyo bay ka qabsanayaan dekad walba marka 5 dekadood oo maraykanka ah ayay damceen in ay afduubkaas ku qabsadaan ma turufadaas ku helaan ayagoo kaalmo ka helayay markaas wadamo kaleeto oo ayaguna macnaheedu waxa u sahlayay hadda dacwada baa halkaa kaga socota oo ay ka xaniban tahay waxaa kaloo iyadana dacwad ku socotaa oo laga cayriyey wadanka Djibouti waxaa kaleeto oo laga cayriyey wadanka Senegal waxaa kale oo dagaal uga socdaa meesha la dhaho Sabha iyo Khalifa Haftar ninkaan soo sheegay Libya halkaas dhib ka socdaa waxaa kaloo laga cayriyey magaalo la yiraahdo imaaraadka Indonesia ayay hadda ka hor ay hub agantay maraakiibtooda markay dekadii dhaan anaga qabsanayna nidaamkeedii controlkeeda waxa oo dhan waxay sameeyaan in dekadii Indonesia magaalada la dhaho Sabaya la dhaho iyo magaalada dekada Jakarta ku taala kulli inay afduubkaas ku qabsadeen laakiin ayaama khaladaadkoodii la arkay inay hub soo galinayaan la arkay inay xataa kuwa maraykanka hub oo ku alxaman maxay tahay containerada qararkooda iyo ay keenayaan la arkay waxyaalahaas dhan markii la helay baa saar looga saaray oo rabshadahaas dhan ay ku kaceen waxa kale mar hore ay hunguriyeen oo si xun loogu galay dekada Iran ah oo shahajar waxsaas la dhaho oo hadda Iran ay dhisanayso dekada si fiican ayadoo isku xiraysa Iran iyo Afghanistan iyo India dhulkaas oo dhan saa isku xiraysa intaas oo dhan marka saas loo sameeyay waxaa dhacday marka dowladdan shirkaddan DB World la dhaho waxaa la rabaa qaabka loo wajahayo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba in aan horta aan si fiican la isula garto sidii loo wajihi lahaa marka inaan galno waa garanay sidii loo wajihi lahaaba waa arki doonaa laakiin waxaa su-aashay ka taagan tahay heshiiska waa aragnay Soomaaliya
runtii markii heshiiska la siixayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu ku sugnaa dalka imaaraadka carabta asagana runtii markii arrintaasi todo xamar yimid waxa uu yiri runtii waxba kama ogeyn lagalama tashanin marka waxaa ilaa hadda isweydiin leh sida dowladda federaalka ay kaga aamusan tahay especially madaxweynaha marka arrintan oo kale waa arrin xasaasiya waa dalka soomaaliya maanta ninkii loo doortay asaga somaliland maanta somaliland dowlad adduunka aqoonsan tahay ma ahan laakiinse waxaa la yaab leh in imaaraadka laftirkoodii qalad ay galeen marka qaladkii yaa u jawaabi lahaa yaa u hadli lahaa oo maanta waxa waye ama qoraal ka soo saari lahaa ama la hadli lahaa ama caalamka gaarsiin lahaa waa madaxweynihii dowladda federaalka ummadda soomaaliyeed u igmatay marka asiga hadduu aamusan yahay waa aragnay prime ministerka waa uu hadla laakiinse is that enough qoraal in runtii mataqaanaa adduunka dacwooyin iyo ashtikooyin iyo wax in loo gudbiyo ayay ahaan lahayd marka maxay la aamusan yihiin isleedaha bal laftirkooda dhibaatada kaleba aan u gudagelin wallahi waxyaalaha meesha sida aamuskaas arrinta iyada ah xag siyaasad marka aan uga hadlo waxay noqonaysaa horta marka hore dowladda soomaaliya kama aamusna waxaysan uga aamusnayn madaxweynaha in uu ka hadlo siyaasiyan marka ay noqoto in madaxweynuhu uu qodob kasta horta ka hadlo maaragtay siyaasadda ma noqoto inta badan waxay noqotaa marba xafiiska quseeya ayaa ka hadlaa qodobka marka ra-iisul wasaaruhu waxa sababta uu uga hadlay xataa waxay ahayd maadaama isagu meesha goobjoog ahaa oo wixii la socday inuu war ka yiraahdo war wuxuu ahaa preliminary hordhaca buu ahaa laakiin hadda waxaa ku ka hadashay oo qoraal maanta ka soo saaray sidaan meelo baraha ku arkay xafiiska soomaaliya u jooga jaamicatul carab xafiiskaas marka waa xafiis koowaad oo warka qaadaya kabacdina xafiiska mutaxida u jooga micnaha qurumaha midoobay kadib madaxweynuhu marka wuxuu adeegsanayaa xafiisyada quseeya inuu asagu lafdiyan usoo istaago meesha ka hadlo macnihii waxaan u malaynayaa in siyaasiyan ay kasii habboon tahay dowladdu inay dacwada markii horta maanta waxaan arkaynaa in Ethiopia mataqaanaa inay 19% meesha ay ka heshay Ethiopia maanta iyada miyaa dan ku qabta annaga inaan wax sii siina miyay mutaysatay maanta iyada oo runtii 110 milyan ah maanta inay meesha wax kaga soo degi lahayn ay wax siin lahayd in iyada maanta lagu abaalmaray 19 milyan waa qalad horta ku dhacay oo United Arab Emirates Somaliland ma ka hadlayno Somaliland ilaa hadda waxay sameeyso aniga waxba uma arko markii waa dal mataqaanaa maanta wali aan xor ahayn laakiin se dowladii mas'uulka ka ahayd ee laftirkeedii maanta hadii la yiraahdo qaladkaas dhacay xafiis ku yaala waxa kaga jawaabaya maxay Emiratul Arab iyo arrimo noocaas iyo prime ministerkii iyo baarlamaanka ilaa hadda ma aan maqal madaxweynihi ma aanan maqal ilaa hadda taa waa laftirkeeda waa qalad jiray marka maxay kaga hadlayeen taas su'aasha taala marka adigana wax kama jawaab kartaa I know laakiin openka ka hadlaysa laakiin se dadweynaha dhageysanaya bal fikradoodana waa sugeynaa haduu ilaahay ka raali waxay tahay horta ama ma daawanay waxa weeyaan 19% in la siiyo dowladda Ethiopia macnaheedu waxay tahay marka ciyaal xaafadana waa xistaa Butafori waxa la jiray cunug oo ka weyn inuu u dhaho oo qashqashaad ku geliyo ciyaal ka yar ku diro soo dhaqankaas dhalinyaradii uma naqaano carruurnimadii taasoo kale weeye Ethiopia waxaa loo adeegsanayaa Butafori ahaan oo meesha in lagu xuxiyo Soomaaliya ayaa la rabaa ayadoona Ethiopia markaas waxa ay qaadanaysaa qaabkaas ah in ay dilaal halkaas ka raadiso kaasoo keenaya marka ay inta kaliya ujeedadeedu ahayn ujeedada Ethiopia lacag ay hadda ka hesho meeshaas kaliya ma ahanba waa ujeedo ka sii qoto dheer oo ujeedadaas ka sii qoto dheer maxay tahay waa in ay qabsataa Soomaaliya sidaas ku qabsataa sida ay ku qabsanaysaana waa maxay ma ahan si xoog ah mana ahan si sharci darro ah hadhow noqon kartaa waa si cilmiyeysan oo sidee bay ku noqonaysaa in la yiraahdo Ethiopia maxay tahay dadka meesha marka ay dekada 19% ku yeelato 19% oo dhaqaalaha waxa la socda in la yiraahdo shaqaale la keensado in la yiraahdo waxa la dhaho board of directors guurti ay keensato guddi guurta markay keensato ama baarlamaan oo kale ay ku yeelato meesha waxay noqonaysaa shaqaalihii oo kala nooc ah maraakiib ay hadda Ethiopia oo landlocked ah aan badba lahayn waa maraakiib leh marka maraakiibteedii kalluumaysiga inay keento kuwii xamuulka inay keento shaqaale oo
ula qabato oo ula dhacdo sidaas ay u qorshaysay marka qorshaha waa qorshe halkaas ka sii jira marka la sameynayo saamiga la sameynayo la kala qaadanayo saamigaas waxaa lagu saleeyaa dowladdaas ayaa saamiga qaadanaysa maxay kusoo darsatay oo dhaqaale ah oo shirkadda ay ku gashay maxay asset ah oo ay leedahay dhaqaale oo meel u yaalla hanti meel u taalla oo hanti guurta ah dahab ah waxyaalahaas ma leedahay waxa dhan Ethiopia marka mar lagala tashan heshiiska Ethiopiana marka ay galayso ma ahan markii ugu habboonayd ay isku heshiis gali lahayd waayo waxa weeyaan ra'iisul wasaarihi oo iscasilaad soo qadimay maxay tahay markaas wasiiradiisana ay qusayso iscasilaadaasi iyo wadanka oo waxa dhib ka jiro intaas baa isku soo beertay iyo iyadii oo dhanna Soomaaliya ka dhahaysa waa idin la shaqeynayo dhib dambe idin kuma hayno dhanna qaskan ku wada marka waxa weeyaan waa wax aan laga fiirsan dowladdan heshiiskan baashan DP Worldkan waxa ugu horeysay dekedan mar hore horta qorsheynaysay dekedaha Soomaaliya oo dhan inay mid u qabsato laakiin haddana hadda waxa soo dedejiyay waxay tahay markii Djibouti oo ay rabeen inay xoog uga qaataan dekedoodii ay ku fashalmeen oo Djibouti markaa waxaad ogtihiin inay ka dhacday waxay lahayd Djibouti 70% ku dhawaad bay lahayd saamiga baashi DP Worldna waxay lahayd oo aan imaaraadkii matalayna waxay lahayd 30% iyo wax ka yar laakiin waxay sameeyeen in ay guddigii la sameynayay bay horta ay ka badsadeen kow waxay kaloo sameeyeen oo xataa ay waxyaalaha xumaanta ugu weyn ay gaareen iyo kibirka ugu weyn hadii dandaansiga ugu weyn ay gaareen waxay tahay inay dhahaan guddigiina qofka ka mid ah wuxuu macnaheedu qof wuxuu u dhigmaa annaga xaggeena macnaha halkeena qof oo guddiga ka mid ah wuxuu u dhigmaa 2 ilaa 3 qof oo idinka ah macnaha qofkeena ayaa qofkiina intaasay ku dhaheen waxay dhahaan dekeda marka annaga ayaa saamiga annaga haddaan rabno gadi karna laakiin idinka oo dhulka iska lahaa saamigiina ma gadi kartaan ma bedeli kartaan dekeda maaragtay ma cusboonaysiin kartaan amarka dekeda ka socda dhan annagaa leh imaaraad Djibouti marka xoogaa dadnimo iska raadisay way cayrisay laakiin maxkamad baa la isla tagay maxkamaddii ay Djibouti geysay ayay ayaguna dacwad kale sii geeyeen maxkamadda marka waxa gabi ku taala waa Ingiriiska maxkamaddaas Ingiriis ku taala laftigeeda waa mid madax bannaan oo dawladda Ingiriiska laftigeeda ay oran karto waa maxkamadaha marka madax bannaan oo xorriyatul qowlka ay ka mid tahay iyo democracy ay ka mid tahay marka imaaraadka Djibouti waxa ugu weyn oo ay ku qaldantay waxay tahay halkaas maxkamadda ay tagayaan in aysan noqonin maxkamadda iyada ah ee DP World ba iska lahayd oo shirkadda iskula jiraanba waa in ay maxkamado kala tagtay ahayd ay heeg tagto meelo kala tagto halkaas qaladkaas ay uga jirtaa baan isleeyahay Djibouti laakiin si kastoo ay tahayba yacwa iska tiri waana macnihii 10 u noqon waxay taas 10 u noqon kartaa Soomaaliya oo khaasatan waxay 10 u sii noqon kartaa maamulkaas asagoo ama maamul dawladeed ha islo ama maamul goboleed ha ka shaqeynaya berbera in ay ogaadaan waxa ay ku sameeyaan walaaladoodii la deriska hadda wixii oo dhan marka aan isku soo dardarno ujeedadu waxay tahay DP World waa shirkadaas markii la doonana ka madax bannaan dawladda imaaraadka markii la doonana soo hoosgalaysa qashqashaadna ku haysta adduunka oo dhan la gashay oo xataa Mareykankii qashqashaadaysa laakiin waxa wada magaca ha iska ahaato ama 2-3 shakhsi oo madaxda imaaraadka ahaadeen laakiin dadka waxa wada waa dad calooshooda shaqaystayaal ah waa wax ku salaysan wixii gumaysigii hore uu ku bilowday gumaysigii hore ee Ingiriiska waxa uu ahaa corporates waxa la dhaho kambaniyo ayaa tagayay meel oo qabsanayay marka waa sidii oo kale tana kambaniyo in ay tagaan taas marka halkaas waxay ka dhigtay dawladdii imaaraadka oo dhan dawlad aan u hoggaansami karinin shuruucda caalamka ah waayo maba ahanba dawlad xilkas ah waxay noqotay dawlad raag taakis waxa la dhaho tuugo gaangistaro dawlad ay wadaan marka dawlad gaangistar ah dawlad waxay ayagu rabaan inay sheegtaan dawlad service bixisa adeeg bixisa laakiin adeeg adduunka ma siin karaan ayaga oo tiradooduna intaa tahay tabartooduna intaas tahay waxa qofka macnaha siyaasiga ahi uu kaliya weydiin karaa imaaraadow inta aad dad kala dhacaysaan hadda dhow bay ahayd markii Iran
ay laba jasiiradooda waaweyn oo muhiim ah ay xoog idinkaga qaaday labadaas jasiiradood oo imaaraadku lahaayeen iiraan baa hadda qaadatay waa ku tagtay lagama hadlaan weeye badda halkaas marta waxaa la oran jiray baxrul carab badda carabtaa la oran jiray iiraan intay kusoo booday waxay tiri mar dambe ma maqli karno inaad dhahdaan baddii carabta waxaa la dhahaa baxrul faris baddii faris baa loo bixiyey dekadihii xaggaas ay ka isticmaali lahaayeen oo dhan waa taa laga soo cayriyey marka imaaraadka oo sidaas oo u rafaadsan inay haddana intay kasii xoog badan yihiin ayaguna sii baabi'iyaan waa arrin aad u waali ah oo xumaan cad ah marka waxaan oran lahaa dowladda Soomaaliya qaababka ay u wajahayso dowladdan in aan macnaheedu horta aan wax ka tilmaamo dowladdan imaaraadka iyo shirkadeedaba shirkadaas marka iyo imaaraadka waxa ay dowladda Soomaaliya ay fiican tahay inay horta marka hore samayso weligaa marka aad cid wajahayso aad kala hor imaanayso wax oo counter action aad ku samaynayso waxaa ku la fiiriyaa wax la yiraahdo SWOT oo ah strength and weakness and opportunity threat intaasaa la fiiriyaa waxa weeyaan waa qof meesha xoogooda iyo daciiftinimadooda iyo fursadaha ku jira iyo macnaha handadaada inta ay khasaare geysan karaan intaasaa kow la eegaa kadib waxaa la eegaa in waxaas iyaga ah la raadiyo originka asalkooda xagu ka soo bilowday taariikhiyan maxay yihiin sidee definition qeexid loogu samayn karaa sida loo qeexo halkee bay degan yihiin halkee bay kasoo qaadaan marka muxuu yahay motifkooda hadafkooda ama waxa dhiiri gelinaya waxa ay damacsan yihiin waa maxay waxa dhiiri gelinayaana waa maxay waxa dhaqdhaqaaqoodana waa sidee dhaqdhaqaaqooda marka aan sida la arko haddana waxaa la fiiriyaa dhaqaalahooda waa macnaheedu waa intee la eg yahay waxaa la fiiriyaa sababta maxay waxaan ku keenay waxaa la fiiriyaa xiriiradooda inta ay xiriir ay la leeyihiin ummado kaleeto iyo macnaha markaas waxyaalaha uga soo baxa yaa cadow u ah yaa saaxiib u ah yay taageero ka heli karaan kuwaas oo dhan in la eego weeye markaas kadib ayay dowladdu haddana waxay fiirinaysaa qaabka ugu habboon ee ayadana aan ay macnaha damage control isugu samayso khasaare ayna isku gelinin isla markaasna ay hadafkoodaas ay ugu guulaysato dowladdu marka inay qaabkaas ka wado iyada oo hadda marka ku bilaabaysa noocan diplomatic missionka ah oo ay ku samaynayso kadibna qaab legal haddana sii gaaraya kaasoo haddana political negotiation ya abuuri karaa kaas kadib marka intaas shaqayn weydo waxaa la rabaa in ay ficil noqoto ay gacan gaarto haddii ay gacan gaartana Soomaaliya yana ka baqin imaaraad waayo waxa ay wataan waa dad calooshooda shaqaystayaal ah oo marka yaa guulaysanaya ma ninkii gurigiisa lahaa ee loogu yimid mase ninka dhoofka ku yimid ayay geeri dhibaysaa nin Colombia iyo laga keenay South America laga keenay oo caloosho shaqaysta ah subaxu rabo ka dhaqaaqaya marka ma suurtoobayso in qofkii ay macnaha dhulka lahaa sidaas lagu handado oo waagi gumaysigii uu soo galayay barbara oo wuxuu ku soo galay company-gaas ahaa laakiin company-ga isaga ahaa halkii nin oo maxamed cabdilla xasan ayaa maxay too sameeyay kacdoonkii ugu weynaa oo sidaas ciribta ka maartay qabtay cirib gooya iyagoo dhan la dhihi karaa oo dagaalkii gumaysigii adduunka oo dhan ku socday ingiriisku waday wuxuu ku joojiyay bartaas diyaaradihii ugu horreeyay ee adduunka uu kula dagaalamo meel aan Yurub ahayn waxaa lagula dagaalamay sayid maxamed cabdilla xasan marka intaas oo dhan oo kartay waxaa keenay dhiirigalsanaan wixii ficil ku fakerid intaasaa keentay Soomaalidu marka yaanan ka baqin handadaada ay ciidan wado waayo sharciyan aqliyan iyo marka ficil haday noqoto danta kaliftana oo hadii la huri waayo in sidaas ay intaba xaq ugu leedahay ayay leedahay dhanka kale Soomaalidu inay eegto Ethiopia marka ay in wax loo sheego ayagana lala hadlo si wanaag iyo fudayd ah loola hadlo oo la yiraahdo war annaga ismudan aan kala go'i karin kala hari karin meesha alla nagu wada abuuray waxaad samaysaan inta khasaare idin soo gaaraysa idinkuna ayaga inta raad xun ay idinku reebi karto dagaal halka ka dhaca
ama dekada inta halkaa laga sameeyo haddana waddankeennii loo soo dhoofiyo ilaan DP World waxa maamulaya waa saan sheegnay waa rag gaangistara iyo dumar gaangistara baa maamulaya markaas waxay noqonaysaa in hubab kala nooc oo haddii la rabo qalinka lagu soo alxamayo la soo mariyo dekadaas loo gudbiyo Addis Ababa taasay sababi kartaa waa inay intaas ku fakaraan marka Etoobiyaanku inta khasaare ka soo gaaraya ee ay markaas dekad heshiis ay kula yihiin dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah ay dekadaas la isticmaalaan dawladdaas si xaraga iyo sharaf leh oo qaanuun ah oo nidaamsan ay ku sameeyaan dhanka kale dawladda Soomaaliya waxaan anigu aad uga soo horjeedaa qaabka ay maslaxada u raadinayso oo macni aad uga ma soo horjeedo laakiin waxaan u arkaa in laga badbadiyay in Somaliland iyo Soomaaliya shiraya la yiraahdo baa waxay tahay arrin Soomaaliya dawladda Soomaaliya sharaf dhac ku ah waayo wax aan jirin lalama sameeyo heshiis waxa heshiis lala sameeyaa wax jira aan hashireen Soomaaliya iyo Somaliland horta Somaliland wax la dhaho ma jirtaa marka haddii ayna Somaliland dawladda dhaha adduunkaba ka tirsaneen oo buugga adduunka marka la baaro aan laga helaynin dawladda Somaliland la dhaho ma waxbay bixin karaan oo horta ay dad jira sidaas darteed Soomaaliya annaga dawladdan waxaan federaalka waa og ka soo qasbay maantana waxa dadkeenu maadaama weligood ilaa hadda ay ka dhaadhici lahayd federaal wax shaqeynayo ay ahayd ku meel gaarkii hadda waan aragnay xoogaa waa noo socdaa in la yiraahdo sida ay Jubbaland tahay iyo Puntland tahay ama South galbeed koonfur galbeed Soomaaliya tahay sidaas si la mid ah ayay la mid tahay Somaliland sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in dawladdu ay empowerment ku samayso ay xoojiso kuwa ay laga yaabo in ay noqdaan kuwa macnaheedu dawlad u daacad ah oo tusaale waxa ka mid ah hadda Somaliland markii ninkan biixi hebelka biixi marka la doortay hebelka biixi wixii lagu doortay waxay Muuse lagu doortay waxay ahayd imaaraadka kharashkiisa ahayd waxaan loo tan lahaana waxay ahayd dekadaas waxa ay ku timid ayadoo sida loo soo wada qoray ahad in meeshii markii dhacaysay doorashadu guddiga doorashada in wax la farfarsameeyay marka la farsameeyay ninkii cirro oo ku soo bixi lahaa in uu ka qaado Muuse Biixi marka Muuse Biixina uu yahay loo ogaa nin dagaal inuu yahay oo markiiba dagaal abuuraya isla markiiba wuxuu bilaabay markii buuqiisi uu damiyo isagoo ku furnaa iyo tashwiishkiisi ku furnaa si uu damiyo waa ka dadkii inuu ka jiheeyo dadkii meesha ka dooranay inuu fikirkooda meel kale u jiheeyo go'aamiyay wuxuu u jiheeyay meel la dhaho tukarraq ayaana la ka soo weeraray halkaas tukarraq bay ka shidan tahay jiri dagaalkiisa halkaas ka bilaabay marka ninkii noocaas ah baa lala heshiinayaa ninkan marka waxaa muhiim ah isla markiiba waxaa dhacday marka sida aad la socotaan kulli adduunka la wada socdaay in ay ka bilaabatay qaskii ugu darnaa meesha Somaliland oo maxaa dhacday in ay 3 nin madaxweyne isu magacaabeen markiiba oo ugu daran yahay ninkii dabadaha kharashka uga keeni jiray dawladda Somaliland oo halka u keeni jiray oo waa ninka Martin la dhaho maxay too ninkan Muuse Biixi ay isku raarka yihiin Martin waxa uu sameeyay marka waa nin Soomaali ah magaciisa Martin la yiraahdo wuxuu sameeyay dawladdu wuxuu ka dhistay dawlad shadow government la dhaho ayuu halkaas ka dhistay reer galbeedka dhexdiisa dhaqaalihii awalba asagu soo kasbayay uu u soo gudbinay Somaliland hadda asaga jidka u fariistay dawladda Soomaaliya marka maanta waxa ay ku habboon oo la gudboon in ay la qabsato Martin iyo cirro laftigiisa iyo qaybaha kale ee samadoonka ah dadka samadoonka ah oo Soomaali doonka ah oo midnimo doonka ah in ay dadkaas ay dawladdu gacan saar la yeelato isla markaasna ay tusiso ay si hoose iyo si kore intaba ula hadasho maamulka fidnadoonka ah ee SNM oo si cad aan u dhahayo oo iyagu khasaare u keenaya isla SNM dadkii taageersanaa iska dhaaf dadka Hargeysa iyo degan waayo dadkii Hargeysa iyo deganaa maanta khasaare waxa ugu filmaanaya iyada oo halka ay laba madfac ka soo dhacaan
xuutiyiinta oo ay ku dumiyaan berbero oo dhan la dhacaan ama hargeysa la dhacaan waxaa dhib kale ugu filan in la yiraahdo inay dhacdo iyada dhexdeeda qolqolad kale ka dhacdo waayo waa ogyihiin DP World meeshii soo gasho aakhirka qasbaa ka imaanaya waxaa imaan karaa in haddii iyaga loo sheegay ay ku socon la iska siiyay iyaga fantaasi kasta sida beenta la sheegay xataa gaaraya dhulkaasi waa dhul sin leh waa dhul beero leh dhul hawd leh dhan walba ka wanaagsan laakiin maalinkii 12 jid laga falo oo meeshii ay noqoto meel saliid ku daadatay meel xaggan oil ku daadatay meel xaggan qashin lagu qubay xagga ay noqoto waxay noqonaysaa dhulka hadda Somaliland loo yaqaan gobolada waqooyi oo dhan in ay noqdaan meel lama degaan ah oo uu ku dhaco land degradation waxa la dhaho dhulkii oo dufooba oo ku dhaco soil erosion waxa la dhaho carradii aan wax ka soo bixi karinin dhulkii oo dhan burburkaas dhaco halkaas ay u dambeynaysa waa haddii aan ay sida ay ku tashanayaan lacag iska soo gashaba waalan haddii kale waxa imaanaya waxa haddaba bilowday oo durba maxaa bilowday in shaqaalihii ka shaqaynaya dekada shalay laga cayriyey waxa la yiri kulligood marka lacagta xataa la leeyahay waa laga samaynayaa meesha xagee laga keenayaa waa isla Puntland waa boosaaso waxa dhacday in la yiri markiiba boosaastay dhacday shaqaalihii joogay inta laga eriyay oo shaqaale hindi iyo kansaday iyo South American haddana markiiba la yiri Hussein waa ku salaamay marka sentence kan dhammaayay jumladan marka waxay tahay waxa la sameeyay markabkii soo degaya maxaan malin Mombasa meesha boosaaso $1 baa laga qaaday containerkii wax saasa isla markiiba waa $7 meel yiri wax aad lacag fara badan marka lacagta ay sheegayaan xataa waa lacag laga sameyn doono dadka reer berbera ee ganacsiga Hussein soo dhow waad mahadsantahay Dr. Qasim waa mahadsantahay واتهاي هيا سؤال دكتور قاسم waad mahadsantahay dabcan barnaamij muhiim ayaad ka hadlayseen oo ku aadan maadaama dhawaan aynu bilowno haddana oo maanta ay tahay maalintii ugu horeysay oo barnaamij gaara aan sameynayno waxyaabo badan ayaad ka dhawaajiseen oo muhiima oo tan ku aadan arrinta imika taagan oo u baahan dabcan in xal laga gaaro shirkaddan DP World dabcan hadalkeedu way cadeysatay ninka madaxa u ah waad arkaysay muuqaalka uu soo duubay oo uu ku sheegay in aysan waxba u dhimaynin amaba aysan qusayn hadalka ee ka soo yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu tilmaamay dabcan in 28kii sano u dambeeyay Somaliland ay ahayd mid madax bannaan marka waxaad arkaysaa go'aanka marka imaaraadku uu taagan yahay laakiin dhanka kale dawladdu lafteedu waxa looga baahan yahay in go'aano ay qaadato laakiin laga qaato dawlad sida imaaraadka oo kale maanta waxaynu dhoofinaa waxyaabo badan oo Soomaaliya marka ka baxa sidoo kale ay leeyihiin xarumahooda xawaaladaha dhamaantood waa xarumaha ugu weyn waxay ku leeyihiin dabcan imaaraadka isu tag imaaraadka carabta laakiin Soomaaliya dawladdu taasna waa mid ay xaq u leedahay sida ay xaq ugu leedahay Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay deegaanadooda horumariyaan oo heshiisyo horumarneed ay gaaraan sidaas la mid ay Somaliland dabcan aan filayaa in ay ugu leedahay xaq laakiin midda laga hadlayo waa tan Ethiopia iyo Imaaraadka sidaan ognahay Ethiopia waxay ciidamada ilaalin ka jooga Soomaaliya waxa la rabay marka Somaliland ay heshiis la galayso oo 19% la siiyay ay qaadanayso waxay doontaba ha ku qaadatay ama garantar ahaan ha ku qaadato ama inay lacag dhiibtaba ha ku qaadatay waxa la rabay marka taas bal waxa la rabay in dawladda federaalkana ay si gooni ah ula kulanto iyadoo markii hore heshiiskii Somaliland ay ka dhameysatay sidaas si lamid ah Imaaraadka waa in ay mar walba ka fikiraan marka awood badan lahayn laakiin marka ay timaado shuruucda caalamiga dawladda Soomaaliya waxay xaq u leedahay dhammaan inay kontrolsho Soomaaliya xitaa Somaliland oo iskeed isku magacaawday waxay hoos tagaysaa
marka Dubai waxay samaysay tallaabo ay ku degdegtay laakiin taa waxaa dabcan Qasim iyo Muuse ka dambeysay kadib go'aankii dhexdhexaadka ee dawladda Soomaaliya ay qaadatay mar walba go'aan aad qaadato caqabad iyo waxyaabaha ka imaanaya dabcan waa inaad diyaar u ahaataa dawladdan waxaan filayaa inay diyaar u ahayd sidoo kale waxaa xusid mudan Qasim in maanta dawladda Soomaaliya ay warqad cabasho u gudbisay jaamacadda Carabta oo ay markaa uga caabanayso imaaraadka sidoo kale waxaa ku xusnaa warqadaasi in dawlad ka mid ah dawladaha darisku ay markaasi sheerka wax laga siiyo oo loola jeeday dabcan inkastoo war-saxaafadeedka si rasmi ah magaca Ethiopia loogu xusin laakiin Ethiopia loola jeeday marka arrintan waxay noqonaysaa laba mid kama badnaanayso tan koowaad howlaha si tartiib ay u soconayaan dabcan arrintan laga hadlayo waa 30 sano heshiis ma ahan heshiis maanta iyo beriya marka heshiis walba oo lala galo maamul goboleedyada iyo Somaliland oo iyadu iskeed gooni isu taagtay haddii dawladda federaalku aanay raalli ka ahayn wuxuu noqonayaa mid aanan u hirgelin sidii loogu targalay laakiin waxa xusid mudan waa in la hubiyaa mar walba in dawladda federaalku si hoose wasiiradeeda ama madaxdeeda sare aysan u saxiixin heshiisyada noocaana taasoo aanan ilaa hadda la hubin karin waayo ra'iisul wasaaruhu waa uu hadlay sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay ka soo horjeedaan waxaan ognahay ra'iisul wasaaruhu inuu ku sugnaa Dubai markii heshiiska la saxiixay marka shakiyo badan ayaa jira dawladdu go'aano badan ay qaadatay oo wanaagsan ra'iisul wasaaruhu markuu Muqdisho ka yimid uu hadlay sidaas si lamid ah maanta warqad cabasho ay jaamacadda Carabta u gudbiyeen waxaan filayaa in IGAD iyo midowga Afrikaan ay u gudbinayaan iyo United Nation kaba iyo qaramada midoobay dabcan laakiin dawladdu waa inay hadashaa madaxweynaha laftiisu waa in arrintan uu ka hadlaa waayo shacabku waxay ay taageereen dawladdan farmaajo iyo khayra ay horboodayaan waa in kalsoonidii shacabka marka la ilaaliyo waxa lagu ilaalin karaa in marka arrimahan ay yimaadaan dawladdu ay bidhaamiso shacabka loo bidhaamiyo hadba meesha ay wax marayaan sidoo kale dawladdan caqabado badan ayaa soo wajahay dawladihii ka horeeyay oo Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeeyay aan soo marin waxa kamid ah dabcan dhiibistii qalbi dhagax waxa kamid ah qaraxii Zobe iyo waliba arrintan imika DB World oo ah mid xasaasi ah arrinta badda dabcan hore ay u soo socotay ilaa dawladii Xasan ma ahan mid iyaga u gaara marka arrimahan oo dhan marka la isku soo duubo waxay u baahan tahay dabcan dawladdu inay shacabka qanciso isla markaana hadda qaabka wax ku wada qaab wanaagsan oo diblomaatiga oo siyaasadeysan oo qoyar socodnimada ay ku jirto in warqada cabasho la gudbiyo maadaama imika Soomaaliya aysan awood u lahayn in ay iska saarto imaaraadka oo ay dabcan iska ceeriso waa gartay waa si fiican waa sida aad u sheegtay horta mid waa kugu raacsanahay dawladdu in ay mar walba bareeraheeda cadaysto waa muhiim sidii hadda ka hor hadda aan ka dhawaajiyay waxay ahayd in badanaa ay waxa horta xafiisyada hoose ay soo marmaraan kaysasku markii ay gaartana madaxweynuhu ka hadlo laakiin marka xaaladda maanta jirta aan anigu fiiriyo siyaasadda Soomaaliya waxay ku fiican tahay in madaxweynuhu uu soo qadimo waayo shacabka ayaa ka rajeynaya inuu wax walba ka hadlo sidaas darteed inuu wax walba ka hadlo waa muhiim way fiican tahay marka waxa weeye qodobkan hadda masalan qodobada aad sheegtay oo kaleeto qodobka waxaa jira hadda ka hor markii aan fadhinay aan aniga xoogaa ku fikir duwana ahaa qalbi dhagax ninka la kaleeto macnaheedu qodobkaas qof kasta oo marka siyaasad si fiican u eegaya waxa arkayaa in ay tahay meel fursad looga raadsanayo dawladdaas marka ayada laftigeeda dawladana waxaa habboonayd sida sharciyan ay u ahayd in ay ninkaas dhiibaan in ay caddeeyaan oo ay dadka u sheegaan waa mid baa jirta oo macnaheedu aan ka dareemayaa dawladda oo ah qof kasta miyaa siyaasi noqonaya Soomaaliya hadda la joogo qof kasta siyaasi noqonaya waayo waxaan joognaa xilli maslaxaan joognaa xilli waxaan joognaa isku keenkeen ah marka ma la sugayo qof kasta oo siyaasadda ka hadlaa in uu qof siyaasi loo yaqaan yahay waxaan sugaynaa markaan oo kaleeto qofka islaanta geedka hoostiisa joogta ariga la joogta iyo maxay tahay iyo qofka ugu madaxsan inay isku si uga wada hadlaan taas baa macnaha xilligeedii baan joognaa sidaas darteed inay caddeeyaan ayaan taas oo kugu raacsanahay midda kale ee marka Ethiopia saamigaas sida ay ku heshayna waan garan karnaayo saamigaas Ethiopia waxa ay ku heshay waa wax macnaheedu aan sinaba u ahayn si nidaamsan aan u ahayn aqligu san keeni karin siyaasadda caadiga aan ku imaan karinin markay saas tahay haddana wayba dhacdayba hadday dhacday qofna wax lala soo doontay ma diidayo Ethiopia maadaama lala soo doontay intaas aad leedihiin baad baan ku leedihiin
dekadna waa taasaa waa haysataan horta waa way iska yeelaysaa ilaa ay macnaha xoog looga qaado maahan dawladdu waa tahay qasim waa wadan kartaa marka waxaa weeye arrintu waxay iskugu soo biyashubanaysaa dawladdu in ay isku darto af iyo adil isku darto oo ay isku darto ayada oo adeegsanaysa legal channels sharciga xagga sharciga adeegsanaysa xagga negotiationkana adeegsanaysa wada hadalka xagga political diplomatic missionsna adeegsanaysa u kala dab qaada in ay haddana afkana kasii hadasho si ay dadkeeda u qanciso oo mar walba waxay jiraan dadka oo dhanba siyaasi sida ay u rabaan ha u noqdeen in laga sheekeeyo qodob loo sheego qodobkaasaa sidaas noo haysta qodobkaasaa nagu xagga ah marka wixii oo dhan in dawladdu ay qeexdo oo ay mar walbaba calaa bayina waxa la dhaho ay ahaato sidaas taa waan kugu raacsanahay waa tahay ayada waxaan rajaynayaa dawladda in aysan isku xanibin maaragtay waxaan dadka qof walba maxaa ka galay ay qof walba ay waxay hayaan uurka ka hayaan ay banaan afka ka sheegaan banaanka soo dhigaan waa tahay waad mahadsan tahay dr qasim waxaa xusid mudan dr qasimow muuse laftiisana waan u jeedaa waxaa xusid mudan waa ka qaadna muuse waxaa xusid mudan muuse horta inaan isla meel dhigno aan ogaano oo aan isweydiino horta DP World maxay tahay maxayse ka damacsan tahay geeska Afrika sidaan ognahay shirkadaas waxaa laga soo ceyriyay dalka Djibouti waxyaabaha heshiiska lagu burburiyay waxaa kamid ahaa in ay dhahday in aanan teked kale laga dhisi karin Djibouti sidoo kale waxaa kamid ahaa in golihii fulinta hadhow haddii cod ay timaado in iyagii ay noqdeen majority aqlabiyad in iyaga ay noqdeen marka hadda heshiiska laftiisa marka si hoose loo eego waxaad arkaysaa in DP World ay ka baaraan degtay in xitaa haddii soddonka la siiyey Somaliland iyo 19 Ethiopia la isku dar waxay noqonaysaa 49 meeshaas waa in si hoose looga hadlaa sababtoo ah 49 waxa Muse marka ma isleedahay maadaama waxaan la soconaa in hortore carabaha dagaal uu dhex maray oo qadar ka gooni tahay oo ay runtii United Arab Emirates iyo Sacuudiga iyo Masar dagaal inuu dhex maray oo siyaasadeed sida la socotid si wanaagsan marka waxaan la soconaa Soomaaliya iyo dawlado badan oo mataqaana markaas u kala saftay in Soomaaliya ay dhexdhexaad arrintaas ka noqotay صح inay Soomaaliya arrintaas dhexdhexaad ka noqotay marka ma isleedahay arrintii dhexdhexaadnimada ay Soomaaliya noqotay waxay sugbal بس واسك جرينا واته واحد سؤال واته ما كل سعودة موسى وعلى فرصة است دبعت بلا لكن مركب ما إسلام هذا بالهشيسكي دبعت هذا ست حد هذا عن نقرني أيا رنتي إنه كيني سعقبضا DP World أما يونايتد عرب إمارات الجنيه إني الصومالي وكحهم هشيسكي ده حاد كان نقطي دول كده أي قيب سينيس ومركز تثبت الجواب أي حدرتان أي نتصايان أما عنان أي أسود جدينا يعني دولة الفدرال الصومالية إن أي ليه المنطقة نابل واحد ده حاد كان نقطتين أرك وحنا نتصينا تبرتينا دول إذا قال لي إن هذا أود لهن أو عن رنتي وحوا هشيس لقلين واحد دورنا كسرين كرنو إني عرضي ده حد ما ضامنته ورنت موسى طبعا وانكور عسنا مدة سيدا دكتة هاي مركز جوانادنا وكله أو دولتها هذا إمك أود له أي سمينيان waxaad arkaysaa wax walba waxa uu leeyahay consequences marka Soomaaliya go'aan ayay qaadatay oo shacabku ay ku amaaneen oo ah go'aan dhexdhexaadnimo ah ma dhihin inay qadar taageersanahay waxay dhahday dhexdhexaad ayaan ka ahay marka Dubai sababta ugu weyn imika ayba ra'iisul wasaarihii ku sugan wadankooda ay heshiis kale oo dawladdu aan lagala tashanna ay u galeen waxay tahayba in loo muujiyo in laga maarmi karo xitaa waxay isku dayi lahaayeen haddii aysan ka baqinin taageero inay ka helaan ama haddii ay filanayaan inay taageero ka helayaan qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta iyo African midowga Afrikaba waxay ku dhawaaqi lahaayeen xitaa inay aqoonsadeen Somaliland waayo Soomaaliya waxay dabcan ay ka filanayeen Imaaraadka iyo Sacuudiguba in si degdeg ah go'aanka ay u qaadan doonto go'aan dhankooda oo ka dhana dalka Qatar laakiin Soomaaliya go'aankaasi way diiday marka qayb ay ka tahay ma ahan oo kaliya arrintu DP World ay sameynayso in ay tahay mid ku salaysan
go-aankii ay qaadatay oo ahaa dhexdhexaadnimada taas qayb ayay ka tahay balse arrintu taa waa mid tan kale waxay tahay shirkadan waddankan imaaraadku waxa dabcan sidaan ognahay waxa ku yaalo suuqa ugu weyn free market waxay leeyihiin sidaad ogtihiin shirkad weyn waa shirkad weyn DP World marka dekedeeda iyo waxay rabtaa horta bariga Afrika oo dhan in tigadaha ku yaala ay la wareegto iyada ay maamusho marka dagaalku ma ahan oo kaliya dhexdhexaadnimada waa dhexdhexaadnimada koow wuxuuna ku saleysan yahay dhaqaale wuxuu ku saleysan yahay gas iyo petrol iyo shidaal uu ku saleysan yahay sababta waxay ogyihiin tan koobaad haddii dekadahan berbera iyo muqdisho iyo baraawe iyo waxaan oo dhan ay hormaraan oo ay si fiican loo dhiso in markaa ay weyn doonaan customer badan oo markaa Soomaaliya maadaama marin oo muhiim ay ku taala taas waa mid tan labaad haddii Soomaaliya shidaala laga baaraya iyo waxyaabo badan ayaa wararku isla dhex mariyeen oo marar badan meel kale looga baaray taa lafteedu waxa imaanaysa in suuqii lagu ciriiriyo marka waxyaabaha laga fikiraya ma ahan dhexdhexaadnimadan oo kaliya qayb ayay ka tahay laakiin waxa laga fikiraya jiilalka soo socda sida aysan u gaajoon qolo walba waxay ka fikiraya jiilalka soo socda sida aysan u gaajoon marka arrintu waa arrin ku saleysan dhaqaale iyo dabcan iyo mustaqbal fog بس حسين ما شاء الله واسف عن باوشكتي واسيدا marka aan hore hadalkayga ka dhimanay waxa weeye horta sida aan la soconaba maanta waxa lagu kala jiraa dawladaha muslimiinta ah iyo anaga oo markaas carabtii mar walba nol ku jirna waxaan lagu kala jiraa laba mucaskar ay Saudi Bahrain Masr iyo Imaaraadka oo markaas ku sixiran Israa'iil marka mucaskarkaas Israa'iil ah iyo mucaskar kaleeto oo asagana Qatar iyo Turki iyo Suudaan iyo markaas ayaguna markaas lagu tuhmayo inay ku sixiran yihiin Iiraan marka labadaas mucaskar baa lagu kala jiraa haddii dawladda Soomaaliya marka ay noqotay in khiyaarkeeda labadaas qolo inay mid raacdo ay tiro intuba waa naloo dhaxay waa u dhaxaynaa kala barbaanay arrintaas waxaan u arkaa horta arrin go'aan munaasib ah ayuu ahaa waqtigiisa leh oo sax ah laakiin haddana in ay ka feejignaato dhibaatada ka imaan karta kuwan ayagu isi siiyey Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay isi siinayeen Soomaaliya waxay ahayd in telefoon loo diro oo la yiraahdo amarkaas qaate oo halda ayriya safaaradda Qatar inta la yiraahdo filanayeen tan markay dhacday marka waxa ka imaan kara in ay ogaadaan oo dawladdu ka sii fikirto waa muhiim oo ay ka diyaar garowdo alaabadeeda ka arursato ilaan meeshaas waa meel calaad ka soo socotee waa tahay marka Dr. Qasim adaa wadata raalli noqo dhegeystayaasha qaarkood daawadayaashii dhankan Facebooka ayaa qaarkood commentiya halkan fikrado ka dhiibanaya Zara Daahir Afrax waxay leedahay ra'iisul wasaaraha ka hadalka Somaliland wuu ku degdegay dabcan dhegeysta kalena waxa uu leeyahay oo dabcan su'aal uu weydiinaya waa Duraan Shirwace wuxuu leeyahay kulli haddaan la saaxiibno maxaa dhacaya marka Dr. Qasim su'aashan Duraan Shirwace haddii aan soo ku weydiiyey bal ka waran wuxuu leeyahay haddii dhammaantood baan la saaxiibno maxaa dhacaya soo tan imikaba aan sameeyna soo maaha maya waa dhammaantood lama wada saaxiibi karo oo waxa weeyaan waa laba qof oo istagaalaya oo mid walba uu ku leeyahay aniga ii heelle marka waxa ugu fiican oo sameyn karto waxay tahay ku wax dhiba idinma qabo labadiinaba kulligiin waxaad tiin walaalahayo ee isdaaya hana istagaalina ana marka mid lama jirsanayo wax kale aan dhihi karno ma jirno inta aan hadda sameynay baa kulligiin walaalahan baa tiin ee noo soo dhawaada marka taa waa la sameeyay waa muhiim qodobkii marka waxaan ku noqonayaa ra'iisul wasaaraha isagoo meesha jooga in heshiiskan la galo arrinta iyada waxay u baahan tahay dawladda Soomaaliyeed in ay investigation ku samayso ay waxa la dhaho criminal coalition baa dhici kara oo ay isla sameynayaan DP World iyo maamulka Dubai u yeeray ra'iisul wasaaraha marka dadkii ra'iisul wasaaraha wixii soo marti qaaday oo meesha ugu yeeray wixii ay ugu yeereen iyo waxay waqtiga ugu la beegteen iyo waxa isku aadiyeen in arrintaas dawladdu baarto oo ay ku darsato waxyaalaha kaysaska ay ku haysato Imaaraadka ayaa horta muhiim ah laga maarmaan ah halkaas midda kaleeto dawladda Soomaaliya in ay garowsato maanta Imaaraadku isaga Soomaaliya u baahan waxay u haystaan inay yihiin oo Djibouti ninkaas u hadlaya yiri Soomaaliya waxa weeyaan waa tanag iska hadlay afkoodana anagu ma hayno ninka saa dhahayay waxa kale oo yiri Djibouti
waxa dad awalba gaajo anaga qoodinaynay haddana meeshoodii baan ku celinaynaa marka maxay cuntadeena ka goosanaynaa weeye waxaan marka muhiim ah dadku iyagu saas ay soo haystaan laakiin sida xaqiiqada jirta waxay tahay imaaraadka Soomaaliya way maanta ku taagan tahay waxay ugu taagan tahay xagga dhaqaalaha dekadaas waxa cirka geeyay adduunka ka gaday waa Soomaali oo kaga dhoofsata Afrika oo dhan siiba gaaska Afrika iyo Carabaha iyo America iyo meel walba isku xirtay ilaa Soomaali meel walba ay joogtaa marka dekada qiimaha waxa u yaalay Dubai waa Soomaali weeyaan horta koow haday Soomaalida inta kaliya ay ka baxaan dawladda meeshaas imaaraadka Dubai waxay noqonaysaa waa dumitaan bay ku saganaysaa sidoo kale waxa xawaalada ah oo Soomaali leedahay xarumahoodu waa Dubai haday ka baxaan oo tartiib ay ka dhigtaan xawaaladahooda meel kale ka dhigtaan xarumahooda ayaduna waa badbaado waxay degi karaan Singapore meelaha lacagaha lagu kala badbadasho oo ka muhiimsan bay degi karaan oo maxay tahay jid fiican ah marka taas inay dawladda Soomaaliya garato shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeedna ay taageertaan in waxa kaliya hataa ku filan inta aan imaam u dirno masaajidiyada imaaraadka kala bar oo bar hataa ma in ka badan waxa imaam ka ah muaddim ka ah khaadim ka ah waa Soomaali marka waxaan u dhoofinaa cilmi diinta islaamka aan u dhoofinaa koow aqli baan u dhoofinaa cilmi baan u dhoofinaa lacag baan u dhoofinaa kaasha resources waxa dhaqaalaha laga helayay oo dhulka iyaga oo dhan baa u rarnay oo u geynay markaas iyaguna noogu abaalgudeen roobkii inay naga waa midda roobka dad badan oo comment dhiibanayay way ka dhaadhici la'dahay waa ogahay inay dad badan ka dhaadhici la'dahay laakiin waa xaqiiqo jirta maxaan sameynaa oo macnaheedu roobka waa taan muuqaal kale oo dheer baa jira waraysi dheer oo aad uga hadlay oo maartay roobka sida loo dhaco oo diiniyan ay u tahay cilmiyan u tahay science u tahay xaqiiqana u tahay wixii oo dhan inaan sheegay iyo wixii dhacay oo dhan waata Dr. Qasim roobka marna inaan ku laabano marka Dr. Qasim maxay kula tahay laftaadu dabcan ra'iisul wasaaruhu in soo arrin aad u foolxun noqon mayso in ra'iisul wasaarihi oo dalka ku sugan iyagii ay casuumad rasmi ah u fidiyeen haddana heshiis 30 sano ah markaas ay la galaan Somaliland ra'iisul wasaaruhu laftiisa soo ma baahna in arrinkaasi bal uu dib u eego oo saas sheegtana baaritaan la sameeyo waa saan sheegayo ra'iisul wasaaraha iyo marka waxa loo baahan yahay xataa isaga inuu shakhsiyan ra'iisul wasaaruhu codsado in arrintaas baaritaan lagu sameeyo sababihii uu isu keeno oo markaas alibi case waxa la dhaho la isku sameeyo halkaas marka taa waa midaas oo horta waa case-kaas baaritaan buu u baahan yahay midda kaleeto Soomaalidu waxa weeyaan waxa muhiim ah inaan ogaano DP World waxa ay la rafanayso oo maalinba meel isugu meeqayso waxa weeyaan waxay dareemaysaa in adduunkii ay ku haysatay dekad ahaan kaliya oo dekad free-aan hayna ay ku haysatay in hadda uu sii dhamaan rabo oo waxa dhacday adduunka dhan ku fahmay China baa hadda ganacsiga ugu badan uu ka yimaada adduunka Shiinaha waxay sameeyeen tareenay sameeyeen saacado gudahood ka degaya wadamadii USSR la isku oran jiray United Soviet Socialism Russia wadamadaas oo dhan waxay ugu geysaa maalin gudaheed ayay badeecada ugu geysaa oo tareena sidaas u qatar ah ay halka ka sameysay oo looga maarmayba dekad in la isticmaalo waxa kale oo jirta in Pakistan waxay fureen dekadooda qona magaca si xun baa ugu dhaaqayaa u malaynay saa la yiraahdo dekadaas oo noqonaysa dekada ay ku heshiyaan xataa Mareykan iyo Ruush oo col ah ay ganacsiga ay wada maal gashadaan marka galbeed iyo maxalada east and west isu keenta ayay noqotay waxa kale oo jirta in ay maxay tahay ay isla Pakistan dekedeeda Bandar Qasim waa dekada Boosaaso la yiraahdo dekada lamaankeeda ee Qasim Port la yiraahdo in ay dekadaas ayadana ay ka dhigayaan caalami weyn oo ay ka dhigaan meel u qaybisa hantida ilaa iyo China ilaa iyo Russia intii ahayd iyo India iyo Africa soo gaarsiinaysa intaas oo dhan waa mid kale Iran ayadana xarumahaas kale ay samaysanayso oo ay ku cunaqabataynayso dekadaas Dubai ayaa jirta marka dekadii Dubai waxay abuuratay col iyo dad ay wada kiciso intaas in looga faa'iideysto oo aysan ahayn wax maanta awood leh Soomaalida oo ka dhaxbaxda oo qarashkeeda kala baxda
iyo hantideeda iyo caqligeeda iyo cilmigeeda kala baxda keliya baa ku filan oo ay ku dumaysaa intaas baa muhiim ah in dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay ogaadaan waa tahay Dr. Qaasim Mukhtaar Qarni oo Facebook ku soo gala wuxuu leeyahay tallaabo ma ka qaadi kartaa dowladda Soomaaliya waa shireen maxay se golayaashu waa golaha baarlamaanka iyo aqalka sare motion uga keeni waayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha macnaha madaxda dalka bal ka waran midaas inkastoo su'aal kale arrin kale oo ay jirta lafteeda dabcan lafteeda Dr. Qaasim su'aashaasi dabcan ku hormar su'aasha lafteedu waxay tahay madaxdu haddii aysan tallaabo qaadi karin labada aqal ma iyagu tallaabo madaxda laftoodu ka qaadaan Dr. Qaasim haddaan ku maqlaa si wanaagsan ayaan ku maqlaa Dr. Qaasim Mukhtaar Qarni ayaa waxa uu leeyahay haddii tallaabo dawladdu ay qaadi weyso golayaashu iyagu may tallaabo madaxda ka qaadaan way ba socotaa arrintaas waxa weeyaan golaha baarlamaanka labada aqalba waxay furmayaan berri ama berri dambe marka ay furmaan waxa ugu horeeya ee hor yaalla waa qodobkan weeye marka way ka wada hadlayaan sidaasayna ku noqonaysaa ani marka afhayeenkii dowladdana ma yahay laakiin sidaas waa sidaan siyaasiyan kusoo maqlay marka arrintaas saasay ku soconaysaa laakiin keliya dowladda waxaan kusii boorinayaa ku dhiirigelinayaa in ay mar walbaba dadka wax kasta qofka u aqoonta leh in ay adeegsadaan oo ay noqoto hadhow in aan looga raynin waayo DP World ha ahaato kuwii badda Soomaaliya xagga ka dhacayay ha ahaato kulli dadkaas oo dhan waxaa u shaqaynaya waa dad aad takhasus ugu leh arrimahaas dowladda Soomaaliya marka annaga haddaan Soomaali nahay runtii cilad baan haysata oo ah waxa la dhaho af carabi waa taqaanaa ixtikaarul maal iyo ixtikaarul cilmi wax inuu qofka xajisto wax isku dhajintaas marka wax isku dhajinta in aan garanno waxa inta isku dhajinaysid waxa fiican qof kaaga aqoon badan kaaga hawl afkarsan in aad la wadaagto oo ka wada faa'iidaan baa fiican marka waxaan oran lahaa dowladdu qof kasta oo ay shaqaalaysiinayso meel kastaba si guud ha u shaqaalaysiiso in asaga laga faa'iideysto ay u shaqaalaysiinin in isagu uu faa'iideysto marka arrintan iyada ah waxay u baahan tahay dad takhasuskeeda leh oo maxkamadaas iska difaaci kara waxa inay ku fakaraan DP World markay wax samayso marna waxay u ekaysiinaysaa wax imaaraadka dowladda imaaraadku ay samaysay dowladda imaaraadkuna waxay leedahay annagu xorriyad baan ka shaqaynaayo waxa weeye waa kambaniga madaxa bannaan intaas kale xataa meeshii laga jaan qaadi lahaa in la ogaado yaa la dacweeyaa ma kambanigaa la dacweeyaa mise dowladdaa la dacweeyaa mise shakhsiyaad baa la dacweeyaa mise Somaliland kuwa joogaa la dacweeyaa mise Ethiopia la dacweeyaa waxaas oo dhan baa u baahan marka in la isla fahmo horta Qaasim waa su'aalaha dadka ayna weydiinayaan dabcan Cabdirasaaq Maxamed Caane Geel qoraal ayuu soo qoray oo lafteeda ma wada akhrin karo shaashada dhamaantood kama wada arki karo laakiin waxa uu leeyahay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyada oo aan la heshiin Soomaalida dhexdeeda Somaliland dabcan intaas ka badan ma arki karo qoraal ahaan aniga waxaan rajeynayaa Muuse inuu halka ka akhrin doono Abshir Xasan Suudin waxa uu leeyahay dowladdu ma waxay aaminsan tahay in faragelintan ay tahay shirkad mise inay tahay dowladda Imaaraadka waa midda arrintan hadda kala cadeynayay weeye oo dowladdu macnaha dacwada hadda waxay maraysaa waxaan oo la dhaho diplomatic system bay weli maraysaa in ay u gudbisay ururka jaamacadda carabta laakiin ka bacdi waxaa kaleeto oo meesha markaas waxaa la rabaa maxkamadda marka ay gaarayso in la ogaado waxa qofka tooska ay u dacweynayso sidaasaa markaas muhiim ah واتهاي طبعا عبد الرزاق عنقلنا ورجينا ان في قرال كيسات اركي كرتان وهالكاس اد كاخرين دونتان جوابنا المركز وixii jawaabaad ka bixin doontaan qaasim wasaa sheegtay warada dawladdu dadaal badan ay sameysay shacabkuna dabcan arrintan aad ay uga hadlay waxa xusid mudan xitaa in reer Somaliland ay u cuntami weysay in 30% ay qaataan oo dhalinyaradu ayagoo muuqaal iska soo duubay ama laga soo duubay ay ku muujiyeen in ay markaasi ka xun yihiin sidoo kale muuqaal la soo dhigo aqalka wakiilada ee qaar ka tirsan ka hadlayeen waxay sheegeen waxa la horgeeyay ba inaysan ahayn heshiis la galay ee ay ahayd heshiis ma la gali karaa marka mugdi badan ayaa ku jira arrinka laakiin DP World
ujeedkeeda ugu dambeeya wuxuu yahay maadaama ay weysay Djibouti ana markaa Djibouti ku dhiiran gelin ku dhiiran gelin amaba ku dhiiran karin sidaan ognahay maadaama ay joogaan Faransiis iyo Mareykanba ay xarumo military ay ku leeyihiin in markan iska aragtay Soomaaliya iyo Somalilandba oo degadahooda iska yihiin bal ciddii la heshiisay inay markaas si fudud ku qaadan karto iyadoo aan loo meeldayinna heshiisyada si fudud lagu wada saxiixday haddana ra'iisul wasaaraha la ballamiyay si markaa loo muujiyo xitaa in ra'iisul wasaaruhu laftiis ujeedka xitaa DP World ay ka damacsan tahay Qaasim waxaa la dhihi karaa ra'iisul wasaaraha in la cazumo in la rabay in arrintan dood laga dhex dhaliyo Soomaalida lafteeda iyadoo markaas la adeegsanayo labada aqal ee baarlamaanka iyo sanadka waa aqalka sareena markaas in lagu mooshin laga keenaba ujeedkuba saas uu ahaa ra'iisul wasaaraha maadaama isaga goobjoog ahaan meesha loogu yeeray si uu noqdo cazimaad rasmi ah loo sameeyay heshiiskii waxa u malaysaa qorshe laga shaqeeyay oo dawladda lafteeda lagu majaxaabinayo oo ay ka dambeysay imaaraadka oo la doonayo in shacabku marka ay kacaan oo ay dhahaan ra'iisul wasaaruhu laftiisa qorshe wuxuu ku ogaayo xilliga la saxiixay Dubai ay ku sugnaa muuna la hadlin warbaahinta isagoo imaaraadka ku sugan laakiin imika waxay u egtahay in uu boorka iskaga qaadayo arrintan uu Muqdisho uu warsaxaf shirka jaraa'id uu ku qabtay marka taas lafteedu waxa laga yaabaa in imaaraadka iyo DP World ay ka dambeeyaan laakiin waxay u baahan tahay arrintan mugdi badan ayaa ku jira dedegsimo badan ayaa ku jirta dhanka DP World ah laakiin heshiisyada noocan ah si fudud kuma hirgalaan waayo waxaa jira qawaaniin caalami ah u baahan dabcan marka heerarkan oo kale la gaaro in la tiigsado isla markaana lagu dabaqo arrimahan oo kale waa sidaas waxa weeyaan horta ayaga waxa laga yaabaa taas waa dhan waa loo fikri karaa waxa kaloo loo fikri karaa inay ka wadeen Soomaaliya idinma aqoonsanin laakiin Somaliland baan aqoonsanahay oo kiini ra'iisul wasaaraha asagoo saa u taagan ayaa hortiisa aan heshiisyada ku saxeexanay taasna u badan tahay bahdilaada qayb ay ka tahayba bahdilaadaas marka waa midda kale marka waxa dhacday wixii ayaga makrigay Qaasim waan ku maqlaa codkaaga iga go'ay isku dirkii ay damacsanayeen hadiiba waxay isku direen Somaliland dhexdoodii oo maxaa dhacday maantadan qaybtii ka mid ah ciro oo xisbiga mucaaradka ahaa waxa uu yiri xaq way u lahaayeen inay heshiis noo soo galaan waaba u igmanay kaas laakiin in ay heshiiskan waa heshiis mugdi badan ku jiro mugdiyaal waaweyn baa ku jira haddii heshiiskan mana ogolin halkaasuu marka xisbiga mucaaradka waa diidan yahay kii kaletana waxa way dhexdoodii ka baarlamaanka waa isku qabsadeen waxay taagan tahay marka Somaliland dhexdeedii in hadda la isku diro oo ay halkaas buuq ka yimaado arrintaas oo dhan marka waxaa imaanaysa dhan walbaba in ay tahay meeshii Berbera markaas ay noqoto meel qaxmo horta Xuseen taasaan ka dhaxgalo laba kullaba waxaan la soconaa qaxmo horta waxa waaye ergaas waxaana jeclaan waa ere culusna lafteeda aad uma fahmin absolutely waa ere aan isticmaaleen waa dal Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed waa ciid Soomaaliyeed marnaba okay marnaba dib uma ogolin laakiin waxa dhibaato ah in maanta iyadoo runtii ay 19 ay qaateen Ethiopia marka runtii in loo hibeeyo ayaa horta wax walba ka xun maanta waxa waa iyadii ayaa service loo sameeynaya iyadii ayaa waxa soo daga badeecada u soo degtay wadankeedii oo 110 milyan ah la sii gaarsiinaya marka in iyadii ay share ku darsata ayay ahayd in iyada laga siiyo ma ahayn maanta laakiin waa qaladaad dhacay laakiin Somaliland iyadana waa advantage ay isleedahay maadaama aan lagu aqoonsaneen waxa doonta sameey kartaa waxaas dhacayna laba kullaba Britain iyaga responsible kama noqon doona laakiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah maanta dawladda la aqoonsay ma aha Somaliland marka dawladda federaalka Soomaaliya ilaa ay hadda wax action ay ka qaada ma aanan arag marka hadii waxa waaye prime ministerki shirka waa uu joogay meeshii runtii lagu kala seexanaa waxa waa uu joogay laakiin se 150 camera ay saa u daawanaysa ee Al Jazeera iyo Al Arabiya iyo waxa waa all over the world camerooyinkii wada taagnaa markuu shirka uu ka soo baxay ayaa la weydiiyay maxaa ka leedahay ayaa la yiri shirkii halka lagu kala seexday DP World ay la seexatay Ethiopia iyo Somaliland no comment uu yiri xamar yimid wasiiradii waxa waa dekadaha iyo asaga ayaa press conference qabtay runtii waa arina waa ay ka dhidhiyaan markii waxaan dareennay ama inay la xumaatay maadaama uu ka hadli waa meeshaas sitood laakiin waxa runtii ilaa hadda dhibaato ah silentigu uu ku jiro madaxweynaha dalka waxa dadka ay u doorteen in uu runtii
ودلكان هجاميو إنه any cause أما دبعتها أما وناك أنت بوا مسؤولية دي دولية مركا ما أنت بربرة دلة أقوسية هي مجال الأقوسية هي سومالان دلة أقوسية معها مركا الصقي هدو ما أنت كأمسو برلمان كينا أي كأمسان ده مين سوحوا وأسلوبنا مركا هدي الصومال يفسدين هنوش شيئان أنا هدي أيسن إستننا ده وحوا مركا سيتو درنتي واحد هالشيئان ما أنت ورقة القرية وحبال السمية بريس كونفرنس اللي عندنا اللي سكي اللوبة ملء اللوبة بركي ساعات كذا وحن مقلة قلب الدجاج حرمتي وكونستيتيوشن قضب كمد اللغة تنتي مركب معها هو شخصي لكن أنا بقولال مليون أقفوت وما أنت أمر دبتها أما قريحي سبتمبر 11 الصومالية أما سبتمبر 11 أفريقيا أيها كذا عدي زوب ماشي اللي يراد وقريحي وقول بشبنا أفريقيا كذا عدي مركب سبتمبر 11 أي يراد أنا لكن 9/11 كنا وزوب وها ما حنو حسنا تاس وحنو حسنا ودبتة النوجو إن الشباب نوجستان نكل يراد قلبنا وحنو حسنا ودبتة وجوينت ما أنت وحوا قف موادن بركي بري هذا يقول عكرتا أنا يقول عكرتا وهذا اللوجو اللي لنا واتاس لكن ما أهن شخصي قلب دقة حمل الدليل أمل الدوفية مركب قلب كان هدرتان ما أنت دي بي وول يرد إذا يكون حد قدبتي الصومالي لان وحوا يدا I don't care وأنا وح عن هلا يمد إذا سي بيسس كنا في سننا لكن ذلك السوفرنتي أيولي هاي الصومالي والدولة مدح بنان دولة مدح بنان ما دام إيتا وحا حكمت الدولة الفدرالك مدحويني هذه إلا هذا كمان وصل هذا لكن سو حوا ده سو موسى وما لما أنا هدو ما أنت كأمس بريوا لقولوبا لقولوبا بريتو وحواي وحلا على حساب تمايل because ما أنت هدي واحد برايم مينستر كانت بريتو وحواي كمان جوا وقفلا مجعابه لكن هدو بحو runtii responsibility gaasito aday wax waa history ku galaysa taas aan aaminsanaa waan maasanta musa laba qodob aan rabaa oo aad ka dhawaajisay in aan wax yar aan ka iraahdo mid ku saabsan Somaliland mar labaad waan ku soo celinaya Somaliland dabcan Soomaaliya xiriir kala ma dhaxeeyo sababtoo ah sidaan ognahay waxa socda wada hadallo u dhaxeeya oo dhawaan dhici doona horeyna u dhacay wada hadallo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya marka Puntland lafteeda heshiis ay gashaa inkastoo dawladda federaalka la soo maro laakiin Puntland iyadoo ma diidana dawladda federaalka ama dawladda dhexe marka maadaama Somaliland ay diidan tahay dawladdii dhexe eed kuma lahan amaba laguma eedeyn karo in dalkeed in deegaanadeedu ay hormariso heshiis ay gasho laakiin cidda eedda aan saarayo Muuse waxay noqonaysaa labadan qolo ee ah kala eedda waxaan u saarayaa Soomaaliya 4.5 xildhibaanna 62 qofood ayaa u jooga aniga waxaan soo jeedin lahaa 62 qofood ha baxaan berbera xalkeeda ha soo sameeyaan laakiin berbera ma tagi Muuse laakiin waaqici markaan noqono berbera ma tagi karaan Somaliland hore waxay u sheegtay in cid Soomaaliya ka qayb gashay siyaasadeeda aan iyagu matelin marka waxaan ula jeedaa wada hadal toos oo madaxweynaha yay tahay dawladdu inay la hadasho amaba in ay ixtiraam ay muujiso laga rabay Somaliland lagama rabin waayo Somaliland wada hadal iyo xiriir fiican midna lama lahan dawladda federaalka xiriirka Ethiopia la leedahay amaba dhinac dalal kale la leedahay Somaliland Soomaaliya lama lahan marka waxa muhiim ah inaan ogaano imaaraadka Soomaaliya waxyaabo badan uu ka taageeraa ciidamo u tababara Muqdisho dhexdeeda ugu tababara heshiiska noocan markuu uu galayo imaaraadku wuu og yahay in ay tahay heshiis wasaaradda arrimaha dibadda oo federaal inuu qusayso arrintan oo dawladda federaal ay tahay imaaraadka iyagoo midaas u jeedaan oo ciidamadii ku tababaray Muqdisho ay wili xarumihii ku xariisan yihiin safaaradoodii Muqdisho taala ayay heshiis bareera ay galeen oo ay og yihiin in dawladda dhexe mas'uul ka tahay waa koow laba Ethiopia waxay ka mid tahay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika Soomaaliya in badan ay ka taageertaa logistics ka noqdo waxyaabo badan ay ka taageertaa Soomaaliya iyadoo og haddana heshiiskaas 19% la iska siiyay inay qaadanayso dawladda federaalkan ku wargelin kartay laakiin ma aysan sameyn marka labadan oo Soomaaliya saaxiib la ah hadda markaan dhabta ka hadalno Ethiopia Imaaraat xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya ayaa aad iyo aad ugu wanaagsan xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland marka runta ka hadlayno waa moogtahay soo labadan marka waxa la rabay in dawladda Soomaaliya ay tixgeliyaan heshiiskooda si rasmi inay ula galaan Somaliland laakiin intaysan banaanka keenin oo aysan saxiixin oo aysan warbaahinta aanan u qaybin in ay la fadhiistaan dawladda dhexe oo ay dhahaan heshiiskan aan galnay qolyahan diyaarikiin idinka maxaad ka qabtaan markaas wada hadal kadib ay saxiixa ku duugaan taas waa mid labadan imaaraadka Ethiopia in lagu eedeeyo u baahan dawladda dhexena mid kale qodobka labaad qaasim Muuse ka dhawaajiyay waxay tahay dawladdu hadduu ra'iisul wasaarihi habal la hoos geliyo meeshan waa la qaldamaa siyaasaddan waa la isku gaadaa moogtahay haddana marka dal
liito oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo wax walba u liita aad tahay kumaba sii jirto dad siyaasiyiin iyo wadamo waaweynaan dhacdooyinkan camal ay ku dhacaan ra-iisul wasaaruhu qaladkiisa wuu saxay muqdisho yimid bishir saxaafadeed oo qabtay wuxuu caddeeyey in ay Soomaaliya dawladda dhexe shaqo ku leh heshiiskan waa kow laba warqad ay u dirtay maanta jaamacadda carabta ay ku caawinayso waan ka dhur sugeynaa ilaa qaramada midoobay ay gaarsiiyaan marka ilaa hadda Qaasim iyo Muuse waxaan aaminsanahay dawladdu si macquula oo diblomaasiyad ku jirta inay hawshan u wado Somalilandna waxay ka shaqeynaysaa horumarkeeda eed kuma lahan laakiin waxa eed leh qolyahan iyagoo dawladda dhexena heshiis la ah Somaliland si hoose heshiis ula galay markaaga jawaabo waa sidaa tiri horta waa isku raacsanahay dawladdu wax lagu eedo male balse waa in lagu amaanaa inta ay hadda fulisay waa aad bay muhiim u tahay laakiin waa inay halkaa kasii wadaa una adeegsataa taxadar diyaargarow fiican ay u gashaa oo aqoonteeda iyo xog fiican xog helidda ay ku dadaasho taas okay waa xagga laakiin waxaa jirtaa marka sida ay ula macaamili lahayd marka Somaliland oo kaleeto Somaliland halkaas hadalku oo ka bilowday waxay tahay Somaliland laba loo kala qaadaya waxa loo kala qaadaya shacab iyo siyaasiyiin ama maartay kuwa meesha xukunta shacabku waa dad aad u nadiif ah waa dad dawladnimo jecel in kasta oo ay jirto in 28 sano ama 30 sano la isku dayay in maskaxda wax kale laga geliyo oo intaas oo dhan dib loo geystay oo runtii dhaawac culus baa la dhihi karaa ayay nimankii ama siyaasiyiin hala dhao ama qabqablayaal dagaal hala dhae nimankii SNM kasoo bilowday waxa weeye waa niman aad iyo aad u dhaawacay jiilkaas reer Somaliland waayo midkii dhaqaalaha haystayna waxay maalin walba ka guraan dhaqaale ay xaflado been 8 Maars ay ku dhiganayaan ama 18 Maars maxay tahay ku sameynayaan waxyaalo kaleeto waxay ka dhigeen isolated inay ummadii ka gooyeen oo ay dadkii walaalahooda ka xanibeen oo ay qoqobeen in ay dhaawac gaarsiiyaan carruurtii yaryarayd oo iskuulka dhiganaysay oo labaad iyo saddexaad ah ay inta diyaarad been la soo masawiray hortooda soo dhigaan ay subaxii barqadii markay laba xiisa galaanba meesha la soo istaajiyo oo la dhawaatan diyaaradii waa awoodiyalkii Dr. Qaasim waa runta midaas Dr. Qaasim waa runta midda arrimahaas way jiraan laakiin hadda arrinta DB World ay ku tacalluqtaa DB World baa usoo noqonaynaa taa okay waa ila fakatay marka waxa weeyaan dadka shacabka macnaheedu waa shacab aad u tixgelin u leh qiimeyn u leh shacabka iyada oo loo adeegayo ayaa waxaa la sameeyay shirarkii kii carta lagu qabtay kii ambagaadi lagu qabtay kulli waxaa la yiri la isu matalo qabiil marka dadkaas qabiilka waxaa matalaya sida uu hadda Muuse ku sheegay guud ahaan magaca guud 61 xubnood oo xildhibaan ah iyo kuwii aqalka sare intaba qayb ahaan hoos hadana intay ka sii helaan ayadoo intaas ay tahay oo intaas ay dad badan ku caawiyaan leeyihiin waa naga sadbarsadeen ay leeyihiin murmo badan socdo haddana macnihii qaab kaleeto oo loogu sii sadbuuro waxay noqonaysaa arrimo kuwii kale inaan lagu cadaalad loo sameyn dadkii kale bay horta noqon kartaa kuwooda marka reer siyaasadeeda sidee loola macaamilaa macnihii dawladda marka waa muhiim inay horta matalayaashaasi shacabka matalaya la hayo oo aan laga saarin xubnooda hold on la gelinin laakiin si fiican loo sii gubaabiyo dawladda federaalku waa in ay hanataa qalbiga shacabka Somaliland marka ragga waxa ku saaray SNM ahaa raggan SNM laftigooda waa kala qaybsan yihiin oo shaqo iskuma lahan oo waad ogtahay madaxweynihii ugu horeeyay ee Somaliland laga magacaabo xamar buu ku dhintay oo Cabdiraxmaan Toor buu ahaa waad ogtahay markiiba in gabayo badan laga tiriyay oo la yiri kuwii kale oo ka soo horjeeday marka gabayo badan ay tiriyaan ka mid ahayd waa ninkii toosnaaye talinayay baan taladii ka qaadnay oo nin tuur leh baan talo u dhiibanay ay dhaheen gabayadaas oo dhan baa jira halka macni gobolka gabayaa laga isticmaalay marka intaas tahay dadkan siyaasiyiintii laba loo kala qaybiyo ayagana ma kooxda wili xaq jirka ah mise kooxda wada hadal ogol kooxda wada hadal ogol in la yiraahdo war walaalayaal maxaad istusteen ee la idinka maqan wixiina aysan noqon hadhow ayaga in waa tahay Dr. Qaasim waa maasan tahay ayaan Yusuf dabcan iyadana ku jirta qadka waxaan rajeynayaa dhanka telefonka inay markaa ugu soo qayb qaadan doonto haddii aad bal telefon markaasna aad daawadayaasha ka qayb galay barnaamijka kuwa kale dabcan aad soo bandhigteen ma huba midaas laakiin ayaan waxay leedahay su'aal nidaamkii ay ka jirtay
burburka ka hor inay si weyn ay u taageeri jirtay marka mararka qaarkood hadda waxay xasuustaan dhalinyarada laakiin ma xasuustaan hadda ka talisa carabaha ma xasuustaan wanaagga ay Soomaaliya u gashay laakiin hadda waxay runtii maanta ay ka shaqeynayaan qabsatay ama imaaraadka jooga ama yarka dhalinyarada hadda Sacuudiga jooga sidii Soomaaliya ay ugu tiigsan lahayd laakiin taariikhda Soomaaliya iyaga wax ka dhaxay horta dad og ma aha history-na ayaan dareemi karaa laakiin se runtii waxyaabaha hadda ay ku socdaan ama ay ku dhaqmayaan jaamacatul arab waa wax runtii lagu burburinayo mataqaana ama ageenisi adiga geedkii ay ku fadhiyeen ay jaraan jaamacadda carabta waxay isbaabiinayso iyaga dhexdooda ayaa isbaabinaya waxaan aragnay Yemen sidii u gashay sidii Liibiya ku dhacday waa aragnay Ciraaq waa aragnay Syria waa aragnay Soomaaliya ayaa hadda ku socota laakiin se su-aashii ugu horreysa waxay ahayd sida carabaha haddartaan ay u kala jabhadayna ay u kala baxeen waxaan aragnay inay waxa waaye imaaraadka iyo sacuudiga iyo masar iyo cumaan iyo dowlado kale inay goori yihiin ee coalition ay samaysteen waxaa aragteen in qatar iyo turkiya iyo dowlado kale oo yaryar iyagana inay coalition samaysteen oo suudaan ay ku jirto marka laakiinse western mentality meeshii kama marma markii groupna waxa waa Israa'iil iyo western ayaa taageeray groupna waxa waa Russia iyo dowlado kale oo Iran iyo dowlado kale ayaa taageeray oo turkiya تلفنا نوصل قلنا نقرأ هذا قد كإنترنت موسى هالمر دوران شروع وحوليه هاي سؤال يويدي أيري هدي كورما يري صدن صوماليا إيو صدن صوماليا صدن إماراتك معناها هدي سد حدان أي قيب صدان ما دام خيراتك صوماليا أي تهين لقى فائدستو هدي إماراتك أي مالك شنو ينتقدوا ووح وناكسنة محا إثيوبيا كيني محي أقيب سموين يوليه صوماليا صوماليا إماراتك منافعاتك iyo faa'iidada laga helayo dekedaas berbera ما meesha waxyaabaha ka socda waa wax iska kaabo ah ma fahmaysaa barkeeja hadda Soomaaliland waxyaabahaas heshiiskaas itood oo international ah waxa waaye maba geli karto barkee dawladda Soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay ayaa jirta iyagana waa dawladda Soomaaliyeed oo aan la aqoonsaneyn marka heshiiska ay galaan heshiis waxa waaye runtii waa heshiis iska xaraan ah laakiin hadda taas ma ka hadlayna laakiin waxa 33 hadii la dheeraa xataa waxbay ahaan leed because heshiiskaas la gala magaaladoodii ayaa ku dhismi lahayd horumar ay ka gaari lahaayeen marka laakiin kan Ethiopia waa mid qalad ah oo Ethiopia maanta waxa dhibaato ah iyadoo Soomaaliland saaxiib la ah inay advantage ka qaadato isla Soomaalida waxay og yihiin inaan Soomaaliland la aqoonsaneyn United Arab Emirates waaba garan karnaa balkii waxa waa markii dhexdhexaad aan noqonay xumaan ay nagu xumeynayso dhexdhexaadnimadeennii ayay waxyaabahan u sameynaysaa dabeecadna waxay u yeesheen dhalinyarada hadda Sacuudiga ama United Arab Emirates maamulo inay burburiyaan waxyaabaha ka sii liita ama ma taqaana dawladaha yaryar ee soo baxaya ama ay ku tuhmayaan dhaqaale inuu runtii ama shidaal ama kheyraad badan inay leeyihiin marka Soomaaliland dalalkaas ay ka mid tahay Yemen waa aragteen waxay ku sameeyeen oo maanta gaajo iyo burburi dhibaato ay u dhamanaysaa marka Soomaaliland jidkaas ay ku socotaa marka waa idin wada salaamay marka doctorka aan ku soo celinayaan horta waa sidaas macnaha siyaasad oo daraska aan sameynayno waxa weeyaan waa midkaas mar walba anaga tusaale aan ka soo qaadanayno wixii hore u dhacay aanan ku miisaamayno marka waxa socda waxa weeyaan waxaan arkaynaa Soomaali hore u maamaaday 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda marka arrintaas baa hadda haysata wadamadii khaliijka carabta intooda badan oo imaaraadka ugu sii daran yahay oo niman aan garanaynin aabahood Sheekh Zayed bin Sultan Al Nahyan intuu wanaag oo ku lahaa geeska Afrika nimana garanaynin oo maartay iska seef labooda waa soo kacay oo ayaan daro weeye waana calaamad lagu garto burburka boqortooyo kasta waxay burburtaa markii ilmihii oo caano iyo kibir lagu soo koriyay ay meeshii soo fariistaan oo aan dhibkii laga soo maray iyagoo nogeyn ay wixii gacantooda ka bixiyaan sidaas ay weligeed ku burburi jirtay imaaraadkana taariikhiyan waxa weeyaan waad ogtiin markii la aasaasay gabigeedba waxa wax ka dhisay oo ka asaasay wad Soomaaliya ka mid ahayd macni ka kicinteedii kiciyay inay buuraha qofkii imaaraadka tagay uu garan karaa buurihii baa gubanayay si u joogaan dhulka noocaas ahaa laakiin hadda laga dhigay evergreen cagaarka laga dhigay waa marka waxa weeyaan waxaan garan karnaa meesha ay ka soo kaceen iyo meesha ay hadda joogaan iyo in ay macni dawladdii ayaga awal u talin jirtay Cumaan bay ahayd oo saldanati Cumaan oo ka talin jirtay ilaa iyo Zimbabwe Afrika geeskeedaas ilaa iyo Ciraaq agteeda ka talin jirtay bay ku hoos jireen laakiin maanta ay waxay dhowr jeer isku dayeen inay xataa madaxweynaha Cumaan
ay qafaashaan ay dilaan waxyaalo saas oo record ku jiro kulli wax walba adduunka hata waxba waa ka shifan yihiin Dr. Qasim waxa isku soo duub waxa weeyaan dawladda Soomaaliya inay horta macluumaadkaas oo dhan haysato meesha ay ka baqi lahayd kul beena DP World baan ka hadlaynay waa companygaas iska sida waxa la dawaca oo kale u waalan xagga ku dhac xagga burburisaas dhaqankoodu yahay marka in aan looga baqinin Maraykan dekadiisa ay 5 dekadood ay qashqashaadeen aan looga baqin Ingiriiska ku lug leeyihiin looga baqinin xagga laakiin la ogaadaa in ay yihiin waata Dr. Qasim dhegeystayaasha Facebook ayaan markaan commentiyadooda ayagoo tiro badan aan eegi doonaa Abdul Qadir Hassan dhegeysto ku soo gala Facebook wuxuu leeyahay asxaabta yiri xaqiiqda dawladeena Soomaaliya waa in dacwadda u gudbisaa qaramada midoobay maxaa yeelay yiri Ethiopia Imaaraadku waxay wadaan waa wax marka aan loo dul qaadan karin inkastoo aanan inta dab aanan ii muuqan Abdi XBML dhegeysto ku soo gala Facebook wuxuu leeyahay Shabeellaha hoose ka hadla Zuhur hooyo qaali baa tahay dhegeysto ku soo gasha Facebookna waxay leedahay waa su'aale berberema Somaliland baa leh mise Soomaaliya Muhammad Ali Idrus ayaa markaa isna inuu jawaabay aad u malaysaa wuxuu leeyahay Somaliland waa dawlad ka madax bannaan Soomaaliya Zuhur ayaa soo laabatay oo mar kale waxay leedahay qalbi dhagax ka hadla marka waxa uu leeyahay dhegeystahan kalena waa Zuhur waxay tiri Somaliland iyo DP World waxa markaas raadsiisay calaamadda ay markaa labada calan iyo waliba dabcan calaamad muujinaysa in ay markaa jeceshahay labadooduba Puntland Abdi XBML waxa uu leeyahay Puntland waa ay joogtaa DP waxa kale uu sii raacsiiyay diyaaradihii lagu leynayay iyo xasuuqii waxyaabahaas oo kale laftoodu waa in laga hadla marka Qasim su'aasha hadda inta kale waa iska fikrado suldaanka Irir Samaale iyo Zuhur labadaas waxay leeyihiin su'aal ayayna weydiisay dabcan Zuhur ay leedahay berberema Somaliland baa miswa Soomaaliya dhegeyste kala marka isagana wuxuu yiri Somaliland waa dawlad ka madax bannaan Soomaaliya laakiin suldaankii Irir Samaale wuxuu leeyahay Somaliland waa dal madax bannaan way dhaqaaqday ayuu leeyahay saaxiibayaal marka bal Qasim waan ognahay Somaliland in ay dabcan dhaqaaqday waan ognahay in ay isku magacawday inay madax bannaan tahay laakiin reer Somaliland iminka live-ka commentida ka dhibanayna la socda waa mid inay ogaadaan midaas oo ah Somaliland waxay leedahay calan waxay leedahay lacag u gooniya waxay leedahay nidaam u gooniya laakiin ma helin aqoonsi caalami ah taas waa mid aan ka hadlayno haddii Somaliland maanta ay dhisto tikid ka dhisto Hargeysa haddii ay deked kale ka dhistay airport berbera cidna kalama hadlayso oo ma hor istaagi karto xitaa dawladda federaalku warsaxaafadeed iyo maysan ka hadleen haddii horumar reer Somaliland iyaga laftoodu ay sameynayaan laakiin marka dal kale iyo hay'ad kale oo ka madax bannaan Soomaalidu ay soo gashay meesha markaas waa marka ay imaanayso dawladda dhexe sababtoo ahna waa hal qodob oo kaliya oo ah Somaliland in imika aysan haysan aqoonsi caalamiya marka Dr. Qasim waxa ku dar leedadna waxaan ku dari lahaa horta waxa weeyaan wixii waa inaan xaqiiqo aan ku jirnaa aanan xulum ku jirinin marka haddii xulum arrimaha noqdaan waa dhibaato waa 30 sano ay qarka gelinaysaa intaan ka hadlayno Somaliland waa xor iyo ma ahan iyo waxa wixii waa inaan marka waaqiciga markaan ka hadalno waxa weeyaan annagu idin Somaliland intii noqonaysa oo israacsan oo is ogol oo Somaliland noqota dhibba lagama qabi lahayn laakiin ma jirtaa in isku raacaysa in ay Somaliland noqdaan waxa weeye marka aan dhaqanka Soomaalida eegno taasi suurtagal ma ahan ma suurtoobayso meel inta kooxda inteennadaas ay soo gola xagga u go'ano ay dhahayso Soomaali ma jirto waayo Soomaali gobol reer ha u badnaado laakiin gobol nadiif ka ah dad kale ay soo jirin soo galay ma jiro gobol kasta oo Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan baa isla degtaa inkastoo ay dhacday marka hadda goboladaas qaar xataa in laga kala qaxay laga cayriyay qaar waxaasoo dhan iska dhexdhexeen haddana meel magaalo walba waa la isla degan yahay lamana kala bixi karo hal qof oo Soomaaliyana maba jiraan la oran karaa oo hal qabiil kaliya nadiif u noqonay u go'doomi karaa qof kasta oo Soomaaliya lugna wuxuu kula jiraa oo xag hooyo ah halkan midna xag aabbo kula jiraa midna xag xaas kula jiraa
midna xag walaal kula jira midna xag carruur kula jira marka qof kasta oo Soomaali ah waa Soomaali meeqan Soomaali un buu iskugu iman karaa taas waa mid oo sidaas darteed haddii Soomaaliya ay qaybsami karto dee Somaliland way qaybsami kartaa intaas horta ay noqonaysaa haddana annaga Soomaaliya ma ahanba waxa idin diidan marka Soomaaliland qofka u doodayo ahaan waxa Somaliland diidan in ay aqoonsadaan waxa weeyaan waa ummadaha kale oo ay ugu horeyso Ethiopia oo ay ku xigaan Afrika oo dhan macquul kamay ahan in ay aqoonsadaan waayo haddii ay aqoonsadaan ayaga dhibaato isu geynaya waa mawduucii DP World hadda waan ka yara siqnay oo waxaan sii gaarnay Somaliland moogta waa un su'aal nala soo weydiiyo oo berbera yaa iskale macnaha hadda heshiiska iyo moogta marka waxa weeyaan waxaan loo ogolayn Somaliland adduunka u ogolaanaynin waa qodobada soo socda waa marka koowaade kama gadmayso geeska Afrika igad inta la dhaho igad waxaynu uga gadmaynin haddii ay Somaliland aqoonsadaan waxaa imanaysaa in Soomaali galbeedna ay gooni u baxdo hadhow kuwa kalena sii go'aan waxaa markaas ay noqonayaan dawladaha xubno ka ah ururka igad marka waxaa la xisaabinayaa luuqadeeba official u noqonaysaa luuqada official u noqonaysa cod baa loo qaadayaa ilaa qolo walba waxay ku yeelanaysaa baarlamaan xubnay ku yeelanaysaa marka xubnihii Somaliland iyo kuwii xagga waxay codka badan waxay qaadanayaan inta af Soomaali ku hadasha luuqada marka lagaga hadlo igad baa waxay noqonaysaa af Soomaali marka af Soomaali noqoto inta kaliya kuma ekaanayso heshiis baa iska dhici kara dadka dad walaalaha sina kuma kala go'ayaan waxaa imanaysaa hadhow in qodob kasta oo cod loo qaado ay ku guuleysanayaan kooxahan marka Soomaalida ah ee iskala googooyay oo tusaale waxay ka dhigan tahay hadda baarlamaanka Soomaaliya oo kaleeto qabiil kasta waxaa la siiyay 61 Soomaali 61 hadday kuwan inta iskala firdhiyaan ay dhahaan 10 baan soo baarlamaanka majority kuma yeelanayaan sidaas si lamid ah bay noqon karaan marka Soomaali ay noqon kartaa haddana sidaas lamid ah bay ka noqon kartaa EU haddana sidaas lamid ah ka noqon kartaa marka ururkii jaamacadda